السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوّد الأواد لما أنت الملكستات جبتان محمد الصوماليات وين السلام يا صوّد الأواد إن شاء الله. أنت صوّب أنا سوي السوق soo dhawaada kal iyo laab dhammaantiinba. mahad soo dhawo walaalo, soo dhawo mahado, soo dhawo gacmo furan ku soo dhawo mahado. maxamed sidoo kale amal diraac calaykum salaam baay. soo wada dhawaada dhammaantiinba. maandhawid baa gacmaha noo qar allah maandhawid baa yiri gacmaha noo qari. soo dhawaada qorada hablaha Soomaaliyeed. mahadsan tahay walaalkay maxamed cumar. thank you. soo dhawaada dhammaantiinba. kaliya laab waad mahadsantihiin shukran. mustafa aadan waad mahadsan tahay walaalo, shukran. sheer gareeya dadku ay noo soo bataan. waxaan ka hadlaynaa arrintii xumayd oo facebookyada lagu soo faafiyay ogeydeen. marka intaad soo badanaysaan insha allah ilaahay idankiisa wax yar hees baan inoo daaraya qos ka hadlaysa dumarka Soomaaliyeed. I hope inaad maqlaysaan sax? Social media war hoy sidaa maaha. sheer gareeya dadka soo bataan sheer gareeya. Social media war hoy sidaa maaha. Arankana sume maaha, kala sooc dadkana maaha. madaxdii la soo doorto eedaynu saar maaha. war hoy sidaa maaha.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين بوينا سلام يا ملك استاد جوجتان ولا الله هيك سوماليات سو ودا دواده دمانتين بكالي لا ولاشين حمتي لك على دوغ برتين waxyaabaha dulmiga ah ama waxyaabaha runta inay ka hadashay inii soo gudbiso waan u jeedaa reer JWL waa inaad ka qaataan biinka insha Allah waxaad ku soo dhajiseen waad mahadsantiin inigana intiina kale JWL bariyahan dambe heesan ku soo gala heestuna waxay ka hadlaysaa waa ereyga marka cadnaan oo please iga qaadsan dadka uu arko aan soo qabqabanayo biinka hadii la saaro ma garanaysaa ma yaanan biinka hadii la saaro ma qof ma soo qaban karayo please biinka iga qaad okay waad mahadsantiin soo wada dhawaada waan iska qaadana bas ka qaaday waad mahadsantiin share gareeya qof kasta oo damiir la uu share gareynaya barnaamijkan ragga Soomaaliyeed iyo ma garanaysaa iyo dumarka Soomaaliyeed ba iyo hooyo Soomaaliyeed ilmo Soomaaliyeed cid kasta roole caruur fiidiyoyada aan daawaday way daawadeen I hope inaa wada daawateen fiidiyadaas waxay hayeen 4 clip gabadhiyo fadhida oo ninkeeda la hadlaysa waliba xilli hore salaad hore quraacanaysa markaas ku leeyahay clip ka dubay shaha cabdi waa kamarada ku socota hadaba warnabada leelisi waa nin haaskiisi iyo ilmihiisu qabay ka soo duubay kamarada سبحان الله وحبابا كما هدلنا حلي ما ديلا نقضة مد بعد الله سوقر سبحان الله كاس ماركتا بلوغ ولا صار يسوي سكتيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكاس وكردي كاس فلاي بجرا مركا وحوي قبل باهوي أهوا وحلقة سوق مقرنة سنتونين كيد وتجي وسلعي ورفادي وسلعي كبعد واحد يسمى مركز تسوي له هذا الشيء مركز تسوي له هذا الشيء دق بتشلق مصيو وإلى هذا الشيء دق بتشلق مصيو ما تيدم بوحقو قاعد إنه فرا إلى ناقو دن كليه ومقرنا سهرير كليه لقنايو سوشيال ميديا مو صوديان naagtu la sheekaysanaya wuxuu ka balan qaaday naagtan inuu na rabin agteedana aan soo dul istaagi karin uuna doonaynin badee waxay tiri waxaan kugu aamini karayaa ina fiidiyo iga soo doogtid naagtii wuu tagay naag ninkeeda waa cala calasa yey u cala cala lahayd kale hadii ninkeeda u cala calin amba hadina ma garanaysa la garnaqay gar maxan maqal jiray gar ma ku gashaa gar ma ka baxdaa bil maqal jiray ma fahanti gar ma ku gashaa heesba ah gar ma ku gashaa gar ma ka baxdaa ninkaas inuu fiidiyowga ugu tala galay qofka xaaska naagtiisa ah ilmihiisa hooyadii ah inuu fiidiyowga ugu tala galay waxaad ku garanaysaa asagu ma hadlayo asaga hadalkiisa amba inuu la tirsado amba inuu ma garanaysaa dil la garamo ma ogolo ayada bas ayuu clip ku kooba ayada bas ayaa hadlaysaa hadal uu yiri labada lugood buu isku dul saartay taam labada lugood isku dul saartay labada lugood dhexdooda fiidiyowga ku dhex jira ka dhex muuqanaya ما لا صعطة هالكاسو مسكينة كدوبة فيديو لكن وايد درنتي مر باي درنتي تري أم بيدوب أم بهيدوبي ما فهمي سان وحوي هو يدا مسكينة ده أيده قرآن السا عن شرد دبتكو هاي ستات أركتين كوب كشاه دبتكو هاي ستا أيو أنتو صوق لي أيو وحي أسمعي أيو فيديو كدوبة إنا لله وإنا إليه راجعون بان ملان هاي كاسو كله رجع سومالية كجرا رجع سومالية ده هدي السكدرو ما وضح حمو Soomaaliyeed kaayo ka caytamayo kala ku jira ka aan saxuuba eedin imka heestaas ka hadlaysay dumarka Soomaaliyeed sawiradood iyo fiidiyoodooda inta qof kale ka soo qaadatid hadana hadhow committee ku raadi amba committee ku caay kaasoo kale ayaa ku jira ragga Soomaaliyeed marka Soomaaliy rag waliba ragga Soomaaliyeed oo dumarka Soomaaliyeed oo ma iska qabanaa kaasoo kale meesha qisadan ku dhacday waa London UK Ingiriiska qof isugu yaqaan waxa ka sii daran ayadoo hurdadu isku diyaarsay hooyadaas oo aqalkeeda gudaha gashay oo xamaaladii hurdada xidhatay oo doonaysa inay saxatan u soo gal suleelkii waliba ka baqtiyo kamardiga duubaya alla damiirku xuma war mayna xaaskaagii ahayn wartaad ku raaxaysanaysay mayna ahayn wartii ilmaha ku dhashay mayna ahayn war ilmahaada hooyadooda miyayna ahayn haddaba waxaad ogaataa sidii loo soo helay ninkii xaarka cunsiiyay inanta yar Soomaaliyeed oo maskiinta ah ninkii xaarka cunsiiyay sidii sawirkiisa loo soo helay adna lagu soo helaya waayo dad baajaar ah isku kin yaqaan adiga iyo gabadhan dad baajaar ah adiga iyo gabadhan isku kin yaqaan iskiin arkay oo ina hebeliyo waa ina hebel dalmi loo aftirnayo adigana sawiradaada iyo fiidiyoyada lagu ay hob inaan arko gabadha walaaladeedan bay maadirade amba wixii ka naxaya jaar la ah ninkaas oo la qaraacayna la soo keeno ninkaas oo la tumayo ay xamdi shakhsi ahaan hadii maashigi ahaan laha amba naadeerkay ahaan laha wallahi وانتم لا كب أنا ركود عين فيديو كسر لقينا وأتبرر ومجوحن نقدنين نكتي سوا عادي وجوجل مانا يا في شاشة بريها إن الصادق ويجا جيها إسلبشي حتى لمات كده والله أتوبرتي مكان لمات كده بقى لنكتي سلاه في جوجل مانا إنه صادق فاهم بالك دي كنايا waxay haydinayar oo 18 jir mise 15 jir in la yiri ma jeceshay ha naala jacaylinu ku hay maxaa cadeynaya
soo caawiyo soo xarxarkaaga ii keenana ku arkay oo haddana dadka u qaybiyay waxaad ka mid ah tan maanta inuu dhacday برنا محد سويسان سومالاي برنا محد سويسان إله بينو داريين نن ilmihiisi oo waliba magarata iska ciyaaraya salaad hortahay xaaskiisi intuu dhibay nafti ilaahay u keenay hada ilaahu ka fartaami ka hadii maanta intaas ma qalaysan ba videoga YouTube ka daawato waxaan leeyahay taas kaayuu ninku noqon ka nin wax nin laga dhigto iyo wax loo dhawaado ma aha damiir xuma naaw xaliir naagtu la sheekaysanaya ku tiri balisan ku aamino san ku aamino naagtu la sheekaysanaya waxa ku tiri balisan ku aamino waa inaad ii keentaa video adoo naagta ya ku bahdilaya videogu naagta ka duubay ismu lahayn inta Facebook bay dhigaysaa videogu naagta intuu ka duubay u diray naagta ula sheekaysanayo jeclaa oo ka dhaxayay imsadu u imanay inanta wad baqlaysan hadalkeeda imsadu imanay shanta habeenimo iyo afarta habeenimo muxuu soo qabanaya ninka shantii afarta ku soo galay haduu xitaa qayliyo nin balwad leeyahay gurigayga dhexdiisa igu qayl ana ku baahan agtayda soo fadhiiso ilmahaaga ku baahan ma fahmaysa marka naagta uu ku maqnaa afartii saddexdii labada ka imanayay ayaa tiri filinkan ii soo doob filinka markuu duubayna dhilib uu siiyay naagtii buu dira naagtina waxa ay sameysay filinkii intay qaaday ayay adduun weynaha dhan ku faafisay waka social media soo galay waka facebookyada soo galay waka youtube-yada ku jira hooyada dhibaataysan jirkeedu qaawan yahay ilmaheedii maanta waxa ku raraha ka fadhiyeen ayadii laftigeedii ma garanaysaa isku dhaxyaacsantay hadlays is leedahay ninkan iska celi naagtu tabar ma leh waryaa ninkaaga ragga ah naagtu afkeeda tabar afkeeda gacan kuma qaadi karto waa dilaysaa ma fahmaysaa tabarteedu waa afka marka insha Allah waxaan bilaabaynaa dadkeena soo qabana qof laba reegiisa inuu ka dhigto rag iyo dumar ninka maxaad kula talin lahaydeen sa gabadha maxaad kula talin lahaydeen hada anu gabadha waxa kula talin lahaa ninka ayuu ku dabadabaysan ilaahayna ku xaw qofka hore soo qabana salaamu calaykum soo dhawaayaan le عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسكور. ما شاء الله ayaan video ma daawatay Facebook yada lalaya ها waan daawaday. maxaad ka leedahay videogaas ninka ragga ah Soomaaliyeed oo saaf ku sameeyay gabadh walaashi ah waliba xaaskiisa ah waliba ilmaha hooyadooda walaal ma habad gabadhiisi weeyaan laakiin marka wallahi horta runta la sheego dadkii Soomaaliyeed way isbedeleen oo qurbuhu wax badan buu bedelay ma garatay hada way marka labaadna maxay hayday waa dhaqan xumada qurbaha taalo rag badan baa jiro iyo dumar badan wallahi iyaguba ay caado ka dhigtaan oo ragna way sameeyaan dumarkuna way sameeyaan laakiin tani waa ceeb waliba aad u fool xun walaala wani waxa arkay raggan Soomaalida oo dumarkii Soomaalida waxa ku sameeyay ragga Soomaalida oo dhan ma aha waa midh ka xun ilaahay naga soo qabteen la video wiisoo dub hada jeceshay hebel way leedahay asagoo naagtiisa saarana ma jeceshay lahu uu saaray uu ka duubayo kana maanta waad aragtay inuu ka duubiyo ugu talagalay isagu uuna hadlaynin marka haweenka Soomaaliyeed maxay sameeyeen ragadu u soo bandhigeen wali ma aragtay nin Soomaaliyeed oo magana ceebtiisu banaanka taalo no hooyadu waxa ku washay waa huga naagta laga ma yaabo inuu soo bandhigto horta waa dumarka iyo raggu isku mid maaha ilaahay baa xishood gaar dumarka siiyay ma garatay oo naxdinta iyo xagga maxay ahayd naxariistaba way ka badan yihiin ragga hada way wala naga yaabaa inay ceebo badan ay asturaan oo ay arkayaan oo ninkood iyo raggoodiba ay leeyihiin laakiin ayaan darada taagan waxa weeyaan marka la isfahmi waayo in qurbaha in maxay social media la isku ceebeeyo waa wax inagu cusub ma garatay waayahay marka dumarka Soomaaliyeed hablaheena Soomaaliyeed marka ay guursadaan ajnabiga kale ay ku ordeen naf ka dayayaan maxay u daba ordaan marka ad u caydaan anaga joogna anaga sidana waxan ba kamid ah kulay wallahi hadan anigu xataa qof dumar ahaan la ajaanib maan guursadeen runta fiicane ajaanib ana garanayno walaal kala hada xaaskiisi ilmihiisi xitaa hada ilmihiisa hooyadood weeyaan ma fahmaysa xaaskiisi xalaasha ahayd oo xalaal ku soo arkay ma fahmaysa ma ahayn inuu social media soo dhigo amba naag kale uu jecel yahay la sheekaysto inuu u bahdilo ma ahayn ma fahmaysa ma ahayn laakiin salaamaya hay هاي ولا لك قف كحيجان سننا chance إن شاء الله قد ما هتسنتين سكة كوفي ومليد ولا لا قف كحيجان سننا chance أو إحنا قحوم هذا قف كستو مقرنا إسلام أو قحوم أنا يبينا رجع سوماليات كوا ينقبا يكوا عن لشيء كسنة يكوا عن شعرنا وعد وينا تاو هذا والله وعد وينا بالله وعد وينا وإن الله سك قبته الله سكيجا لأن إنك رجع بالجرو أي ما فهميسا hoostu ka soo galay eeyga ku fadareenay hadaan hosh iska oran na hosh iska dhahoy waa ku jecelahay isku soo sawiro kamarad xun ka hadlo taas social media oo oolaysa salaamu calaykum soo dhaw calaykum salaam wa rahmatullahi wala shay waran
والله الحمد لله سودو وني أرنتا محد كله ده أرنتا نينكا دولي جاه ناقص أنتو دوبي الميز سوشيال ميديا وقيبي بصوري محد كله ده walaalay aad iyo aad baan oga xunnahay haddaan nahay ragga Soomaaliyeed arrimahan aan maqlayno maalin walba هذا هو waana fadeexad u weyn waxa weeyaan xaali xumaan baan ka bixinaynaa gabdhaha Soomaaliyeed mar walba in saa loo galo rag Soomaaliyeed magaca Soomaaliyeed watan inay saa u ما galaan حد وطن إلا هيدا والله بداس aad baan ما oga نينكا حق ما نينكا دعوة لو أبيوس وكسمي يدنا حبي يحير عليك هاي بكدوبة ما نينكا حق باب كل walaal دعوة اللي لا تكون دعوة ما إسكفر ما أوصمر أو دول قاعدة ما حد كنت كل طريق هيدا قبل walaalay horta waan daawaday videogan shalay iyo xalay iyo waan arkayay social media-ga marka waan meel aan u qaadaan fahmi waayo waxaan islahaa waxan maxaa waaye ma gabadha waxaan soo dhigaysa maba islahaynba aniga ninka naagtan qabaa soo dhigahaya aan niyadeed maba gelininba moogtahay لوجيهيسا muuqda walaalo lowgihiisa muuqda ninka waa reer London dadka jaarka ahaaba soo sheegay inuu London degan yahay sawiradiisana waa la soo dhigi doonaa sawiradiisana waa aad iyo ka dhigi doontaa social media waayo xal hog qodima ha qodin baa la yiri haddaad qotidna ha dheeraan ku dhici doontaana mooji naa kale u bahdilaya walaasha mada fahmin marnaba dee ma soo dhiganin xalay iyo shalay waan arkayaan ku dhahay social media-gan ku arkay waxaa islahaa gabadhan waa gabadh maseersanoo ayadaa soo dhigtaama islahaaba ee isma lahayn ninkii asagaa soo duubay baa li asagaa soo duubay waxaan ka diyaariyey te waatan hadda adig kaa maqleen la yaabanahay magacana naga dilahaya gabdhihii iyo dadkii marka horeba isku rafaadsanaa muxuu ahaa mugdiga la kala geliyey haddana shalay daxaar baa la sheegayay darhad nin qaawiro gabadhiisa soo geliya la sheegayay marka waxay noqonaysaa kala shaki weyn iyo ummadii Soomaaliyeed iyo ma ninkii la shukaansanayay baa la aaminaa oo ma garanaysa mise ninkii ku qabo ilmaha u dhashay aaminta bal waa dumarkii Soomaaliyeed xaqay uskada yay aaminaa waaye walaalay dumarkii ma aha shaki badan baa jira shaki badan baa dhacay inta fiican inta fiican baa walaalay badan oo waxaa ku jirta aniga adiga iyo boqolaalan kale oo waxan ka xun oo diidan oo dumarka Soomaaliyeed muxuu in la xumeeyana diidan ragga Soomaaliyeed in la xumeeyana diidan marka waxa weeye inta xunta yarta ay dumarka ku jirta inta ragga ku jirta aan iska soo qabano walaalayaalow oo arrinta aad weyn walaalka ma hadsantahay inta xun hala iska soo qabto inta xun dadku isku wada mid maaha in baa xun inta xun hala iska qabano yaan aaminaa dumarow iniga ina la hadee yaa la aaminaya waayahay ila kii la shukaansanayna dad jeceshay soo dhig video inantu waa u soo dhigto waad aragtaane kii wax qabo ilmihii loo dhalo gurigiisa iyo hooyadiisa intuu afarta habeenimo u soo dhacay haddana kamaradaha sir ah ka soo duubanaya aragtaane war inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun nolol ma aha Soomaaliya magacii Soomaaliyeed diintii islaamka sharafteeni waxaas aad ku kordhay kaas oo kale aad ku kordhay salaamu alaykum soo dhaw xamdi ayu rabaa soo dhaw baa khayra maxaad ka leedahay arrinta ma daawatay fiidiyoyada hota aduna Layla si fiican baan u daawaday waa arrin aad iyo aad u xun maxaad ka leedahay arrinta wallahi walaalahay waxaan ka leeyahay dee maxaan ka dhahaa wallahi waxa waa nimanka Soomaalida waxa waa boqolkiiba mid fiican baa ku jira midkaana lama yaqaan gabdhihii Soomaaliyeed oo is ilaaliya taaniya ninkan xun waa nin jiran oo maxay inuu jiran yahay usan caafimaad qabin way ka muuqataa gabadh hadal dayiba dhahaysa oo qurux badan oo maasha Allah oo nadiif gurigeeda suu nadiif yahay wad yaabta gabadh say u qurux badan ta wad yaabta buu caawiye bari ka mid la taagan yahay marka nimanka abaay waxa Soomaaliyeed waxa la dhihi jiray waagi hore waa li dhaqantaa jirta xamdiye ma faham dad badan oo waxa waay rag iyo dumarba waalida dhaqanta baa jirta qofka hala iska baar marka wax lagu darsanayo caafimaadka iyo maxay ahayd iyo maskaxdiisa hala iska baaro qofku inuu qof caafimaad qaba yahay marka waxa kala hadda soo xariisto hablaha Soomaaliyeed marka guursanayaan inay rag iska baaraan ha iska baaraan oo ninkan oo kale maxay anigu la yaabi maayo kan oo kale nimanka Soomaalida ah wallahi oo billahi oo tallahi waxa darkaysaa niman naagu isku aaminayaan oo guryaha ku haystana wax kasta ka suurtoodo gabadhi wuu caynayaa wuu bahdilayaa wax kasta ku sameeynaya tiyo xaamila tiyo u dhalaysa tiyo u kacaysa tiyo u kufaysa naag baan kula guursanaya tan baasoo la guursanayo la siiqaadahay maani mid damiir la ahayn si u tiraahdo wariya naagta maxay waxa la hoogay ma haqoodin baa leh dad qotida dheeraynta ku dhici doontaan moojiye ayadana birri buu ku sameynaya kii ilmaha u dhashay uu lahaa shalay waan ku jecelahay muraayadan ka dhaxarka koobka biyahan ka dhaxarka lahaa ayuu maanta kamarad ka duubayay tuu u diray waliba sii faafisay kalsooni darro ninkii ku riday la sheekaysanaysa waa ka sii daranta
iyaduna way waalan tahay waa xagga maskaxda isaguna wuu waalan yahay tan sawirada soo dirsatay ee gabadha miskiinta ah ku bahdilaysa maxay ahayto esaan yeelaysana way waalan tahay naag miyir qabta maahan maxay ahayto isaguna waa waalan yahay maxay tahay gabadhaana waxaan leeyahay ilaaha weyne waaxidka ha kuu cawado waa u soo ducaynaynaa maxay tahay nin fiicanna waayi maysid naag nadiif ah oo caqli badan baa tahay marka maxay tahay kan xawayaanka ah ilaaha weyne waa iyo naagta xunta u wadaba ilaahay nafsiga ha ka soo saaro ilaahayna ha soo qabto kaasoo kalena yaan la dayna ha la garaaco afka ha laga garaaco haddii dad la dad hadhow qabiil ku difaacaya hadhow waxaa laga yaabaa inay dad qabiil ku difaacaan ninkaas haddii la qaraaco meesha la isku rugmadaba ilaa qabyaalada maskaxda inaga gasheen hadda qaar ba waxay soo qorayaan gabooye axmed nin uu qoray wuxuu yiri oo gabooye maayane ma soomaaliba oo maxaan ku hadlaynaa hadda maxaan nahay annaga ma ajnabi baan aniga dadkan cuqdad baa wada haysaa marka wallahi billahi walaalay anigu waxaan dhihi lahaa gabdhaha soomaaliyeedow balaayaa nimankan gabdhaha nimanka kuwada ordaya iska daaya naag waliba nimankii soomaaliyeed ka samra wallaahi oo billahi oo tallaa wax sharaf la boqolkiiba hal midoo fiican baa ku jira kaa fiicanna ma taqaanin waa wada aalkoloyste waa ka wada dhacsan yihiin saasay kuu bahdilayn haddana filimaan cusub bayba keenanba inay gabdhihii intay social media soo dhigaan nin la aaminaya ma lahan kaa miro guriga foodiisa naag walba ha surato wuxuu wato jeebkiisa telefoonkiisa beladiisa ha la baadho wallaahi billaahi anigu wallahi waan yaabanahay gabadh nadiifa akhlaaq leh maxay ahayd isaga waaninaysa u turaysa waa wada af wallaahi billaahi tullahi anigu waxaas dhaha waxaan annagu waxaan taagana gabdhaha soomaaliyeed hal lagu yaaco nimanka ajaanibta hala guursado hala iska daayo baladan guurkooda na anigu markaan soomaalinimada ها والله واي حد nimanka nu sharaf leeyin dadkeeni ba hagaagi lahaa waxay guursadaan ba hawayaan ma hawshiina leedahay ajnabi ka iskor koraan iyagu haday rabaan laakiin se gabdhaha amaan ha noo siiyaan waayo gabdhihi wax lagu aamin waa wada khayrul mas'uul arshi ka hadlaya arag arshi nimanka waanaya abaay dadku wacyi gelintu ku leeyahay kowde waa hada wadaad iyagu wadaad adeer wax wadaad la dhaho halka hada wadaad iga dhigba maba arki karayn nin wadaad waayo filmadaba iyaga wada way wacdin waayeen hal gabara tiri ninkayga nin kala asagoo dabada ka saaran ba ugu imid imise wadaad ba ka soo hadlay hala la 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 ina nimanku wax la yeelo na ina nimanku wax la yeelo ma ogolo wadaadadu walaal mayra aragta laakiin inta dhibaatada dumarka ku dhacaysa ina la qaawiyay ina iyadoo qaawin la soo saaray tan hadda laga duubay ar nin wadaado ka hadlayaan aragno wir nin wadaado ka hadlayaan aragno laakiin halka nin wax loo geystay dumarka bay saa u qayliyaan wadaadadu wadaadada qabiil rag la dhaha ku jira waa siyaasad rag ahaan bay ragga u hiliyeen dadkii mujtamacii Soomaalidana wax wacyi geliya ma haystaan xamdiyay hala yaabin wiilasha yararka qaxbay soo mareen tahriib bay soo mareen waa wada dhimirka waa wada waalan yihiin gabadhii uu qabo xaaskiisu isagoo la galmoonay ka duubaya video tiyo maxay ta guri u nadiifinaysu ka duubaya wallahi wax la aamina ma lahan dadkina wax wacyi geliyo oo maxay tahay oo quraan saara ma haystaan marka waxaan ku hadal ma naqaan gabadhaas waxaan la soor ilaahay waxaan uga bareeyaa mid fiican inuu ilaahay siiyo ajaanibkeeda iska dhax gasho baraha guursato Soomaali wallahi waa mahadsan ilaahay waa ku dhaartay ayagoo markii hore lagu xiitaa lahaa aan iska samraynin xabdiye iyagoo lagu xiitaa lahaa iska jiidanay tanna noogu sii daray ya والله بالله والله حنوصل gabadhaas laakiinse say nadiif u tahay markaan arkay gurigeeda oo korkeedu nadiif yahay hadallada murtida ay ku hadlayso waxaan dhahay kan isaga isceebay gabadhan ku damir darana oo aqli badnayda gabadhaas say wax u hadlayso war saasaan ku yiri waxay tiri xitaa marban iska ka eri haddana waxaan sir weelmahaaga abood istac waan ku yeedha waan hurda waan ku yeedha waan daaranahay war inta adiga walba qalin jabinaysa ma soo socdo war maanta waa holiday meel nagee calaashan والله بالله waxaan dhaha ma garanayo ninkaas soo kale ilaahay ma rag Soomaali ku xoolay wallahi billah gabadha waxaan u sheegayaa inta gabadh Soomaaliya waa kula mid saasaan guriyaha maxay tahay nimanka dhan saas waay saasaan u ooyina dhexda farta ugu wada qaniibsanaa gabdhii Soomaaliyeedna ay wada xidhan dhaxda u wada xidhan waa la ogyahay taas marka gabdhii Soomaaliyeed badinaad maxay ahayd maxay tahay ka turjumaysaa sidaas u wada ooyinayaan sidaas iyadoo xaamila iyadoo wallahi iyadoo Soomaaliyeed waa qasriga banaanka iskeenaa tii dib lagu hayay ba adiga video ka duub baa la yaabay markay afka hala furto naag walba gurigeeda waxa ka jira ha ka sheekayso ha iska cidhisad dayuuska guriga u jooga video ka duubaya midhka wanaagsanaana mid baa ku dhegsanaa maxaa tara midhka wanaagsan Allah hadaayaan leeyahay ninkii qofkii fiican cidna ma ceebaysanayso
مرمرك وانا عكسنا يعني مدبا هايستا هذا يقول تكترى وعجاي تانا walaalay anigu waxaaban ka yaabay naag nin qabo naagta hunguri ka galaayo baaban ka yafi jow iga soo duub araxda ka jab baan dhahay taas ilaahay waxa u bariyay inuu iyadana saa uga duubo وما إلى دنك الله هذا موديسا ما دنك كلا دنك ما له هذا كودي بيه ناقة كودها أسق أقل حمدي سحت أسق ونن رجع مش قبل كل واحد ناقة هذا دوني فيديو ويجا كان هذا مقرن سأكون بهدلس أي أسق ولا صعب ولا وكان kuwa badan buu ka turjumayaa oo rag ah oo Soomaaliyada wallahi oo bilow tala waxa iska suurtooda kii maanta dhow gabadha sariirta kaga soo dubay videowga waad aragtay kii gabadha xaalka cunsiyo waan aragnay ha marka Allah noo gargaaro waxa kala garamayno dumar oo cabtiina banaanka ay taala waxa weeye taas waxa la abay kababisleed maxaa dhahaa mamahda kababiliseed walba kaba isma dheerada kor biliseed kaba isma dheeraa la dhahay islaaliyo ayaa xijaabku hayay karnaado hadda gabadha videoga laga soo duubay maanta way xijaabnayd naag hadii maxay ahayd oo asturan bay ahayd haday timaheedu qaawanaan lahaayeen oo ay rifrif lahaan lahayd xitaa gurigeedu guri maxay ahayd lama bacafiyeen haday xitaa qaawanta soo duubay ilaahay baa wuxuu la aflagaadaynaya waxa la leeyahay way maseersan tahay way hinaasaysan tahay maxaa ka galay xilligu soo galo waxa qoriyana waa rag ina hooyadu way ka danqanaysaa anigu talaasiinaya gabdhaha Soomaaliyeed aniga gabdhaha Soomaaliyeed talaasiinaya war afar bar mid talada aan siinaya wuxuu soo qoray afar baa loo baneeyay oo afar hadii lagu baneeyay ma marka doon sidii la afka ha u dhacay oo video ka soo duubaysa maama Maryan xamdiye maama Maryan heestii qaad jirtay waxay tiri ma taqaanaa waxay tiri maxay ahayd toy waxay tiri dumarow nacas iska jiray tiri nagaansha Allah hayeen nabbaadiin iyo baxda habay tiri nagaansha Allah hayeen naagtii nin xun guriga u joogooy baxde ilaahay baa nin iyo nabadba ku siiyo oo ay deganaansho ku siiyo hada weyn علشان ninka xun ilaaha moodina ha u dhiman nin bay qaba ha u dhiman marka waxaan dhiila naagaha maxay tiri nimanka iyaga is og naagtii nin xun guriga ugu jiro intuusan video ka duubin banaanka u saar nin aad mar maslaxday oo laba maslaxday laylo waxa jira video xilliga ay hurdada isku diyaarsay xamaalad yar xiran tahay madaxii ay qaawisay oo aqalkoomada waa ku dhex jirto kaga daba yimid baa jirta uu ka duubayo videoga ma daragta abees ka duubtay abees aqal xuma uu waalan yahay xagga maskaxda wallahi billahi xamdi adigu ma waxaad ku suureynaysaa ninkaas inuu miyir qabo ma jacayl badaa wax jacayl anigu waxaan naagta kale wax tustay naagta kale wax tustay ama jacayl ha tustaan boos inta ka boodee naagta kale wax tustay naagta soo bahdilay ilmihi u dhashay hadduna naagta ninka doonayna war hal ka tag kulliba ma garanaysaa aniga gabadha waxaan kula talinayaa naagta gabadha videoga laga duubay waxaan kula talinayaa haddaad dhiig iyo uus leedahay horta ninka saa kuu galo naag warkeed kuu soo maqlay maxay ahayd salaanta islaamka ka qaadin dalaaqdaadana ka qaado haddii aad kaa u samirtid oo guriga gashatid bari ka maalin isagoo sariirta kula jiifuu soo duubaya kowdhe maxay ahayd gabdhaha kale oo Soomaaliyeedna waxaan leeyahay waliba booliska haday u geyso videoga tiraa hoo social media geliyo amba naag kale ayuu ila guursanay naagta kale videogaygaas u geey oo ay qaaday u geyso ninka waa loo xidhay wallahi waa loo xidhay ninkaas saasamayso wallahi yey ka hadhin gabdhaha kalena waxaan leeyahay ee qorqodayaashu qabaan ee nimanka dabeecadda xun qabaan ee nimanka habeen iyo maalin ay maslaxayaan qabaan ilmaade rayaal intaad ooyin lahaydeen ee aad waxa waay araxda ka jabi lahaydeen iska cayriyo naag walba ilmahaaga si nadiifa u korso oo waxa waay stress la'aan ku seexo nabbaadiin iyo baxdaha nagaansha Allah hayeen nacas dumarka nacas iska jiro nabbaadiin iyo baxdaha nagaansha Allah hayeen esti maryar mursal haye hadhowdiina inaad caaw sorry waan ka xumahay amal ismaaciil qabo amal ismaaciil hajarin de wadnahaad lagu soo caayaysid ku qabo waa amal ismaaciil naagtay qoran tahay mar labaad ban chance ku siinaya waxaad soo qortay waad is ogtahay hadalladaada waxaa ku jira naaxishood adigoo ah naagabooya war dadkan xakan ka aadna muslim naagti landheeraha isku sheegayseen iyo inankina landheeraha isku sheegaysay baa waxa sameynaya xaga anaga lagu aflagaadeynaysa haddaan hadlayno subxaanaka ya cadiim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنو كلها كل حجرت الصومالي سب بلوغان اسك ساري أنا بلوغ كوقف عفيبان تنو كلا ما عرفتا جلن بوكسيا بلوغ يجي راح يران كابون لك ربح حليا تقله مسؤولية دي هاي
gabar Soomaaliyeed baa laga hadlaya waxaan ka hadlayna waa wiilasha Soomaaliyeed wiilasha Soomaaliyeed dhan ma wada xumo waxa xun in baa xun intii xumayd baan gaarsiinayna aan hadalkayga ka hadlayna hooyada Soomaaliyeed inay ma garanaysaa ay hurdiyada soo jeedaan ka hadlayna markaas qabiil nala soo hoos galaysa qabiil cunsuriyad baa tan uga baxay ha wuxuu yiri maxay tahay yaab nimaan arag baa yaab ark maxay naagta waa u jeeda dhahaysa maxay tahay adoo gabooye muxuu qabaa waa sharmuutadii u soo dirtay waxay tiri naaya xishood adigoo gabooya waaye maxaan ku xishoodnaa waxaan ka hadlayno waa dhibaatada hablaha Soomaaliyeed lagu hayo oo culummadii ka aamusan tahay oo dhalinyartii intii fiiceeda firfircooneed ka aamusan tahay ka hadlayna oo waaninina dadkii maxaan ku xishoodnaa war ilaahay yaqaana والله بالله أبايو waxaa jirta xamdiyay horta waxaa jirta dad Soomaali sheeganaya oo magacan gabooyaha aba haday maqlaan wax kale ka aaminsan oo xasaasiya ku dhacayso naxshoodan leeyahay rag iyo dumar baxalana waan dhahay haddana waan leeyahay maaha hadda nimid baa soo qoray gabooyo ma Soomaali ba oo la xaqan ka nimid hadda anaga ma geed ban ka soo dhacday masaajid nabi baan Soomaali dhaladana waliba kuwa ugu gabsan baana waxna ma dilno waxna ma dhacno waxna ma kufsano waxna ma yeelno dalkaygii dadkeena waan jecelnaa cusurnimada waalida dhaqanta waalida dhaqanta waaye waa dadka waalida dhaqanta hadda naagtan hadda dadka waalida dhaqanta ahoo ninka u soo dirtay fiidiyowga armayba iyadii taaba mid ay garanaysa ay tahay gabadhu waxa la korbilitay markaad gabadh Soomaaliyeed ku faraxdid dhibkeedana adigay kuu soo marka waxaan leeyahay afkiina suubsada gabooyu waa idinka sharaf badan yahay afkiina suubsada qoshuushka waa mahadsantahay waad mahadsantihiin blog waan saaray waa mahadsantihiin dhamaantiin ba muna sharaf walaalo waan saaray blog waan saaray waa tagtay taaso ha hey xirsa walaaladan hadda ku soo qabtay insha Allah iska ilow waqtiga iyada si laakiin aad waxaad ka hadal insha Allah soo dhaw xirso maxaad ka leedahay arrinta magaalada ku faafsan haddaan Soomaalinahay aan wali nagu sii sheer garaynayno maxaad ka leedahay السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو ولا لي وحوي الله نأستره مركه وحوي إلهي وحولي سبحانه وتعالى نبينا محمد قف مارك حمانتي ذا أستره إلهي وحو أستره حمانتو ذا دن أو أستره مركه وحال ربا وحيابها سوشيال ميديا waxyaabaha propaganda iyo xumaanto faafto oo meel hadda warbaad sheegaysaa mashriq iyo maghrib waa laga dhageysanayaa haddii aad wanaag ku hadashana waa laga dhageysanayaa shay wanaaga markaad ku hadasho qoftu kaa qaadato waxa weeye waa wanaag waa run wacyigelintu waa fiicanta laakiin dhinaca ah warragga iska daaya ajnabiga aada xoogaa taas anigu waxaan leeyahay waa ka soo horjeedaa laakiin waxa weeye ninku hadduu xun yahay ha lagu bedelo waani wuxuu sheeg wax la hadal maslax waxa weeye wal islaaxu khayrun islaaxu waa wanaagsan yahay marka hadhihinina ka cadgoosta buriya wax sheega saan yeela hadhihinina waayahe adaan kuu dhiibaya waaban qaatay hadalkaagiiba tusaale ahaanba adi maxaad ka dhihi lahayd arrintaas hadda ninka Soomaaliyeed waxa tir ha ka eriino rag kale ha eriino ajnabi ha aadine ninka xaaskiisi oo waliba ilmihiisi ilmo u dhasho ilmihii la fadhiyaan gabadhi masaakiinta ka soo duubaya wax oo waliba leena roodid na shahab suuka marada ugu qabto oo ma garanaysa amba call video ha qaado oo naagta kale ugu hayo naagta kale video ha ka duubato amba video inta duubay naagta kale loo sheekeysanayo afarta habeenimo ka iibanayo u diree maxaad ka dhihi lahayd arrintaas hadee walaasha ku dhici lahayd amba hooyada ku dhici lahayd amba ilaadeerta ku dhici lahayd maxaad dhihi lahayd والله ولا الخير بدن الله كسيو لكن إن كستون ملاينيو on dhowr goor fiidiyowga dhagaystay waxyaabo badan oo dadka qaar ay ku hadlaan inaad ka hor istaagto xumaana laakiin anigu dhowr goor oo dhagaystay hadalladaada macnaha waxa weeye dhinaca wanaagaad on mar walba aad ka talinaysay laakiin hadda gabadhii markay kula hadlaysaan dhagaysanayay gabadhaas marka hadalla aad u riyaaqdaa jiray oo ahaa waxa weeye ragga hal cayriyo heestaasaa sheegtay intaa sheegtay war ilaahay waxa weeye wasabru khayrun lakum alayhi sabarka ayaa idin khayr badan qoftu hadday sabartana wax kastoo wanaaga way gaaraysaa marka waxa weeye anigu ma taageersanin mana soo dhaweynayo nin
macnaha video iyo xumaan xaaskiisa wax fusqiya ka duubaya waa khalad aadayna u khalad tahay maxaad kala waanin lahayd nimanka Soomaaliyeed inta xun maxaad fariin u fari lahayd wallahi waxaan fari lahay nimankii xun dadka ilaahay waa dadka wanaag lama wada siin qof xun qof fiican qof dabeecad leh qof dabeecad xun qof dhexdhexaada marka waxa weeye fartaada xunna filfil kaagama hartaa la yidhaha mogta hal su'aala maska abulaatay mise nin familata anigu family ah ma jeceshay markaan xaaskaaga waxa ku samaysay ما بتشعلي من سود وين يا كوري تاسو بس بس كلا ويان حاساga ma uu ogashay xaaskaaga in xumaanteeda Facebook ka tago ما يصح bulshada lagu arko no ما جعلي لكن ka danqataa hooya ku dhashay number la dhalatay ka danqo ajnabi marka la leeyahay hal guursado waxa loo leeyahay waa nafla caarig waayo yaa la aaminayaa ma waxa la aaminayaa ninka shukaansanaysid mise waxa la aaminayaa ninkan aad ma garanaysaa ku qabo ilmaha u dhashay ما يا حمدي أنا ما تاجر سنين كورنين كدتكيس أم حاسكيس أما إيه الكيسة كلها رقمية أما قبل كلا صوماليات بحتى كلها رقمية أنا ما تاجر سنين من سود وين وأنا عم بارين يا رنتيس هالساعة هاتي وحن كسو هرجي ده هنكوري إن معناها اللي يراهدو نينكي حن هلا فعدي وردين توحنا فريسة نينكي حن إلا سود وين نينكي حن ولا على نينكي حن ولا هذا عدينيا ولا ديليا ولا جوبيا ولبا أحكي لك لسه أرد مركز سومالية وكع رجع تجيبي وخد ريا سومالي رجع أنا كنت واحد يقول وانا ويرخله يا واحد ساعة دوم عيلته ببنان كم صار دقيقة هل لنا سؤال هل لنا واحد سمسي هل جبرة ومن أمريكا شوفتها جبرة واحد سمسي وين هنا استي قفك هدو هنا سواح كستو كوب عاقل كريا ما دام هنا استي أي واحد استدين كأجر ناكل ولبس هذا كلنا ناكل أمبيه واحد كهنا استي ناكل ولش كان سنينا يوم خبيبة هل كبرة واحد صار شو واحد تري سيدي علشان وجو أجارسته الله عليلي أصدقه ذي عد كستبا كعبانسا هل كبرة هذا الصوتي إمس أدوينه ولا بكذا رجع أدوينه شكرا أنا أجني كده أبى سيقول هذا ما صفر هذا دي ده هرت فيري وهل إنه كحمد الرجال هنفوين كسومالية كل حكي هذا يهبلا يروش اللي تبجركو مستقبل كودي ما قدرنا سالك عيار ما حمدي هرت ما ركتي عرض يعيلك يوصن إذا قادم أنا وحن أرن لها ما ركتي وحي حنا إلهي سوهنونيو وخير كهكدو وحي في عنا الله السائديو أدونكو وعي قلنت بلشدة ميديا أو قيب قاتا ودها ورقبنو صبر شكرا صبر أي صبر إن شاء الله وصبر هذا وما صنت أيوة ولا مسؤول يرانا ولا ومحسن هاي شكرا رشاق ولا على كل فيديو مليت كبر حكوا صنقة ومحسنتين قف كل شيء كان شان سننا ما كان قف دمران شان سننا ما ويل كنا بالان كرفينا دل عيل باين حيه عيل بناك بالان كرفينا هلا السلام عليكم سودا ولا على سودا نهالي سودا وباي واندوي ولا المعنتو waxaad kala leedahay arinta waa daawatay fiidiyogaas fiidiyoga waan daawaday xamday ma fahantay marka wallahi illa aamino ma la garanayo illa aamino ma garanayo ma la garan karo haddaan xagga jaanibta u cararnana waxa la oranayaa haddaan xagga jaanibta u cararnana waxa la oranayaa waa wareey haddii kalena waa taas raggii Soomaalidu sabinka walaal wuxuu noqdeen xawayaan ilaahay baan ku dhaartay meel aan u cararno ma naqaanoba inkaar baa dhacday bandhigga xagee loo caray ma hooyadii ay magaranaysaa ninkeedii aaminta mise inanteedu shukaansanayay waa ta adduunweynaha wax kasta waa lagu arkaya wax kala bari inoo imanaya maanta tan weeyaan shalaytii waxay ahayd inantii xaarka la cusiyay tan hadii naagtiisa sirtiisa saaran ka soo duubay ahayd maantana waa tan barbarina wax kala sugayna bal midda kale xamday walaal bal u fiirso shal markii dhibaato dhacdo nin gabadheen nin ku sameeyso maxaan ku raadaa ninkeeda xumaan wax ku sameeyso hayaay baa la wada oranaya tanoo kale cid ka hadlaysa ma arkaysid dadku way wada aamusayaan ka soo hadlaya wadaadadu waxay yaqaanaan qabyaalad waxay tahay qabyaalada ragga loogu hiiliyo yaqaanaan wadaadada carab in wadaadaha ka soo hadlo ninkaas soo waaliyo hadho war diinteena may sheegin in qof haween ah oo waliba xaaskaaga ah oo ilmahaaga hooyadood ah inaad soo bandhigtid waxaan ka soo dubtid carnin ka hadlayaan arag wir na ajnabiga la iskaga dareero ajnabiga hooy may walaal khalaas haye walaal khayr insha Allah haye ma hadsantii
markana wiil baa u dhex jaaniska insha allah soo taagta fartaas ay soo qabto dhammaantiin baa mahadsantihiin sheer gareeya arrimahan oo kale inaan ka hadalno waa arrin run ah ninkaagii osaygaagii ah oo ku hor fadhiya aa wada hadlaysaan inuu clip kaa soo duubo uu banaanka usoo saaro waa maya qof naagna ma ogolo wax kaste hooyooyin xunxun way jiraan raggooda xagxagta hooyooyin xunxun way jiraan raggooda ma garanaysaa aan dhaqanin hooyooyin xun way jiraan naag ninkeeda markay dhaqan weydo hanan weydo naag kale inay ka hanato waa buux laakiin wuu jiraa wiil wanaagsanna wuu jiraa oo reerkiisa raba inuu dhaqdo oo sharaf ku dhaqayo reerkiisa laakiin marka xunaan iska soo qabano marka xunaan iska soo qabano biliis wiilasha Soomaaliyeed waayahay foosiyaan soo qabanayna soo kala horeysan bari soo kala qabanaya waa mahadsantihiin anigu maanta wadan maraya khadrasilmo wallahi naasay wad ogtiin gabadhana waan ka xumaa qof kasta damiir buu leeyahay damiirkaygu ima siinin taa inaan ka aamuso maanta soo dhawo foosiya walaal السلام عليكم باي عليكم السلام باي soo dhawo foosiya waa lagu arkaa wajiga keen wajiga qurux badanida ma sha Allah soo dhawo dadka baalaha igala rifniyo ii soo jeeso horta walaalay arrintaas anigu xala waan daawaday oo aad baan wallahi uga naxay oo uga xumaaday aad way waxa waaye de social media hana waxyaalaha badan oo de faasuqnimada way ku soo badanayaan aad ma garatay de arrintaana kuleyba de horta hore nin naagtiisa tu video ka duuba ayadii oo xijaab la'aan ah social media soo dhigayo de waaba eeygan ficil lahayn ma ogtahay walaashii baa laga jarayaa waa dhigta walaashii in adeertu u dhigtay weeyaan taas wuuba la hadlayaa haya wuuba la hadlayaa walaal wuxuu leeyahay shaha cab buu leeyahay ma aragtay horta aada weyn ha daashaha cab videogaas hoos u ka duduubaya af ingiriisi ila wanaag ma garata dhinacna ka hinaasaysan dhinacna ka xanuunsanayso ninkan xanuunkiisa haya dhibkan u geeyay allah hooyadaas cid la kadnaqsatay weedi maskax badnayda aqli badnayda intaasoo hadal buu soo bandhigaysaa damiirba male wax meel kale u jeeda asagu haa meel kale u jeeda waa qof wuxuu ahaa abaayo ilaahay xaaladiisa og yahay dee ilaahay soo hanuuniya nimanka Soomaaliyeed kolleyba waxa waaye dee nimanka dhan waa xuyeen ma dhihi karno oo waa walaalaheen waana aabayaasheen dad wanaagsan way ku jiraan waana wada xaas baan wada nahay oo niman baa wada qabo ma garatay walaalo may ragga Soomaaliyeed wala hina qabaan midhbirkii wanaagsanaa waan sheego dumar baa ku dhigsanay midhbirkii xumaan waxa sameeyay ninka waxa sameeyay aniga kolleyba normal ila ma ahan wuxuu normal ila ahayn nin naagtiisi oo qaawan xijaab la'aan social media ku soo baahiyay wuxuu ila yahay qof aan ficil lahayn oo ay camala ninna maba noqon karaba de raggana de walaal qof hooyo macaan soo hay soo gal no problem hooyo gabadha mid ma aha baa ku salaamaynahay haya macaan tahay hay qofka ku xigan siinana chance hinda habiban chance siinana hinda habiday qabato insha Allah عليكم السلام أم سلاح سودو باي سودو ويندا هلو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سودو ما حد كلا دارين تباي الحمد لله ورنا قال سداتها وان في عنا يندا ما حد كلا دارين تا ما أنت فيسبوك يدي يوتيوب يدي واتساب يدي ملك استوى اللفافين يعني ما مقلسة هلو qalweynay qofka ku xigan chance doona insha Allah qofka hinda ku xigay FIFA ajnabiga ka socoto wala meel halkana FIFA ajnabiga lagu yaaco ajnabiga madaxa ku saaranaya madaxa xeebtada banaanka ee Facebook ma soo dhigayo FIFA ajnabiga aliya bille aragga Soomaaliyeed laga tagay inta saliid iyo baasta iga dhargeen anjala xabash saliid wallahi la iska rifaya saaxiibeel adkaysta السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله سودة وارنتا محق لدي بايا. ماما معان ما يمغشاها. بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ما شاء الله تبارك الله ماما هذه أدبانكو السلام يا مركهوري. إن شاء الله ولا الله ماشي كتير دمانتين ماموين وانيد السلام يا. waxaan ku salaamay salaanta islaamka taxiyatul islaam assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habar yaray ilaahay khayr ha ku siiyo arrinkan habar yar aad ka hadlaysid horta waa arrin sidiisaba muhiim ah oo in laga hadlaa runtii ay tahay haddaan hooyooyin sa ahaatee habar yaray may maqashaa habo
ها هو كوسع كماليا كول باي جري habaryarey magacaygu waa maxamed amiin baa la yiraahdaa programkan aad hadda ka hadlaysa anigu aalad sidiisaba aan ka shaqeeyaa هاي muddo fogna aan ka shaqaynayay هاي social media waxaan u malaynaynaa haddaan u noqono burburka qoyska awal saldhig waxa uu ah habaryar macaan dalkii oo burburay qoyskii dee wuxuu ku tagnaa qarankii haddii la waayana habar qoyskii sida lagu helaa way adkaanaysaa waa la ogyahay habaryar laakiin habaryar waxaa loo baahan yahay dee qoyskii waxaa tiri koobi jiray dowlad baa dadkan hagi jirtay gacan bira ku haysay nidaam buu lahaa dadku waxay lahaayeen dhaqan iyo mataqaanaa iyo hidaraac bay lahaayeen habar intiiba dee haddii la qurbihii la yimi qoysba mataqaanaa qaarad gooniyuu ku xiran yahay habar markama lama oran karo wax tirikoobi karaa ma jirto dadkan siday ay doonaan iyaku yeelaya habar lama tirikoobi karo midna hadda aniga programka waan gabar hadlaysay ma aqaano programka horey aan kusoo gaaray oo gabdhahan hadda aan ahayn oo horreeye ahaa dad baa waxay leeyihiin dadka habar marka laga hadlayo sidiisaba qoys laga hadlayo habar qoto dheer baa looga hadlaa dad aqoontiisa lena waa in la keenaa oo la raadiyaa dee qof walba wuxuu hadafkiisa iyo asaga markaas waxa uu cad keliya ma tilmaami karo wiilkaas keliyana aabbayaasha Soomaaliyeed kuma wada tilmaami karna aabbayaan tobteena aan haynaa oo qaaliya sida runtii ah laakiin qof waxa waa ka dhici karaan qof iyo laba wax waa ka dhici karaan dumarkuba intaa waad aragto waxbaa ka naga dhacaya waxaan doonaynaa inaanu islaax raadino oo meel dhexe la isugu yimaado oo dadka la isku soo dumaynu doonaynaa laakiin yaanaan noqonin qof walba inuu iska soo wactamo iska caytamo yeeda dhicin qofka caytamay ama qofkii wax ka dhaceen markaas ama video gabadha ka duubay inuu qaldan yahay waan wada arkaynaa laakiin qof walba waxaa kaga soo hagaagaya inuu raadiyo sidii maslaxadii lagu heli lahaa reerka kana la isugu soo celin lahaa qaladka wiil ka dhacayna raaligelinteeda u bixin lahaa taa in la raadiyaa muhiim anigaan u arkaa marka uu awalan ugu horreyso marka labaad waxaan oranayaa casabada gabdhaha dumarka qaadaysa inta badan anigu shaqsi markaana maxamed amiin waan kasoo horjeedaa waayo anigu cabirkayga inuu ituso inan yaree meel ka hadlay ee video oo qaldan habar yar wuu qaldan yahay anigu waa saxsan yahay marnaba ma dhahayo marna ku taageerayo laakiin marka laga hadlayo social media habar yar guryaha iyaga wax burburiye qayb ka yahay anagu waan ognaad nood ogtahay habar macaan xamdiye siyaasadda xitaa qaybta siyaasadda wadankeena isagaa kamid ah habar isagaa burburiyey ee araxda ka jabiyey ee qoysaska taagnaa xataa kuwii lagu soo hiran lahaa xataa isagaa araxda ka jabiyey maxaa marka loo baahan yahay qof kasta ee bilow aadniya ee soomaali ah waxaa looga baahan yahay habar yar inuu isdul taago sida xaqiiqadan isu dul taago aqalkiisii oo burburayo oo kale uu qabto sida hadda barnaamijka dhexaadka uga taho kale laakiin midna waa idinka dadkiinan soo gala miidiyaha ee dadka rabaan inay ama dood wadaag u sameeyaan ama la talin u sameeyaan habar yar waa loo kala hagaagsan yahay habsami u socodka programka absolutely habar yar aniga barnaamijyo badan oo adigu aad samaysay waqtiga ii diiday ilaahay amarkii waa ku tixanay barnaamijka markaad soo dayso laakiin waan waayay meelaan mataqaan kala hadla ama aan ka mataqaan hambaliyay horta waan waayay laakiin qofka inuu soo qabsado waa ka soo horjeedaa microphone absolutely una caytamo waayo meeshu waa media haddaad rabto inaad wax saxdo oo wax hagaajiso maaha wiilkan islaameed in la caayo wuxuu mudan yahay in loo sheego soo fadhiisa halkan qaladaadkana samaysay maxaa kuu geey guriga ubadkaagii baa jooga oo kugu abtirsanaya beritoore gabadha yare guurs hadday gabadhaada ama wiilkaaga uu koro uu weynaado cajalada la tuso ma wax wanaagsan ba waa maya dhinaca wanaagsan waa laga tusaa in inantaadii inankii guursan lahaa ama wiilkaaga yare inantii guursan lahayd ee halkan u noqoto taariikh u noqoto buugga gasho ay noqoto wax wanaagsan maaha mid adduunya mid aakhiro laakiin qaabka lagu kala gudbinayo ee dadku ay markay miidiyaha soo galaan u kala sheegayaan anigu shakhsiyadeyda run ahaantii qof weyna hooyaabaan kamaan helin sida xaqiiqada ah waayo waxaa la doonayaa habar dadkan in laga wacyigeliyo cajaladahan gabar walba markay odageeda la hadlaysa ama ubadkeeda habar yar waa inay aalada ka fogaato guriga waxa yaal anigu waxaan dhahdaa islaam baan ahay hooyada kala aqalka markay la hadlayaan waryaa wax ma idiin sheegaa waxa soconayna laga damiyo meesha gudcur laga dhigo gudcur laga dhigo laga damiyo taaganta waxa dhan ba daasadeeda iga rida because waxa ay ka qaadayaan meesha ku tuuraya muur baad ka haysaa
khayri barakaan kaaga tegay hablaha u sheeg inamada u sheeg laakiin gabdhaha casabadooda kacsan tahay aad iyo aad in isu dejiyaan baan doonaynaa sababtoo ah amar iyo qadar dhacay iyo qof qaldamay bulsho dhan laguma qiimeyn karo baaraka allah fiik maamo waa mahadsantahay shukran jazaaka allah khayr maasha allah maamo wanaagsan codkar ah kalsooni maasha allah intaba haysa ay ahayd aad baan u salaamayaa maamadaas iyo maamooyinka soomaaliyeed oo dhan meel kasta ha ku duwo waa mahadsantihiin waxaan isku xijin doonaa insha allah nimco nimcakiin baan ku xijinaynaa waad mahadsantihiin maama tankis baan ku leenahay aad baan u mahadsan tahay jiro joog baan ku leenahay maamo hadal wanaagsan baad ahayd way wax badanna ka hadashay hadday kuwani ku maqlayaan awlaadaadii meesha way ku jirtaa waa awlaad soomaaliyeed oo dhan baad dhashay marka waa mahadsantahay maamo ma soo qaban karo yaa qaar baa far dheer soo taagayay إلهو عيبتنا أستر الدنيا آخرة وعليكم السلام سووا دوادا دمانتي بإنتن هدنا إنتي سوق الشرط سووا دوادا قاعد نفرق سووا دوادا عليك وحن كهدنا وبرنامج شعاوة سووا أحمدو حمدي واندوهي wax badan baa gacmaha soo taagay waxa weeye waad qaban weeyday waad soo qaban weeyday haddan gacanta dheer arkay maxaa ka leedahay ninkaas Soomaaliyeed xaaskiisa iyo social media soo dhigay maxaa ka leedahay waliba naag kale ma garanaysaa ay oo uu la sheekaysto isagoo ku qancinaya fiidiyoyada u diray inay soo faafisay maxaa ka leedahay horta waan ku salaamayaa xamdiyey aad iyo aad baan ku salaamayaa meesha waxaan malaqada 584 qof horta barnaamijku waxaad ku furteen si qurun oo ragii dhan aad balaha kaga rifteen adiga wax ma laba gabdhood oo hore intaan maamada loo dulqaaday hadana hablaha Soomaaliyeed ma waa runooday dad waalan baad gacanta dad waalan waxaa jira aad gacmaha ku haysan hadda ninkaas waxa weeye ceebta waan isku soo jiiday caruurtiisii iyo familigiisii iyo ragga anagoo kala ah waxa weeye ceebta foosha xun u soo jiiday dadkaas oo kala gacmaha ku haysaan iyo kuwa kale la mid waxa u maleenaya waxyaalo badan way soo socdaan wax badan anigu aan ka warhayo baa jira oo runtii soo socdo ilaahay naga qabtee marka laakiin xoogaa laakiin dumarkii baad wada kale u jeexdo waxaad tiri ajaanibta hal aado ajaanib waxba ku tiri maayo walaalo way taraysaa ilmihii markasta baadii أنا قال هذا ما نوري أجنبي مسلم كهذا ما لا وايو إلا ده شيء لا قبيل كها لا دقن كها لا إن هذا كها هو يدور هاي كوجلي waxa weeye horta hamdiye ma badna ragga waxyaalaha sameynaya ma badna oo waxa weeye hadee waxa weeye intii foolxumada ahayd baa soo marta social media foolxumo iyo qurxi wuxuu inta u badan u soo bandhigaa waa foolxumo social media Soomaalidu isticmaasho ilaahay hadda kama aan arag qurux badan wax isceebeynaya qabil caayaya maanta hooyada amba walaasha amba inaadeerta ruma haday ahaan lahayd maxaa ninka ku samayn lahayd walaal ilaahay marka tacabti taniga sharciga lagu qaadi lahaa sharciga oo la yimaaday baa lagu qaadi lahaa ninkaas waa nin kale كل شيء شيء برنامجكان uu gudbiyay oo uu yiri macnaha bal aragday xaaskayga waa kaas waa anaga isku dhacsano barnaamijka sida qof walba u fasiran karo xaaska halkaas noo maraysa videoga ku qanaco kana ku qancinayo wax macluumaad marka ade aadon salaam ya wiilkaas wax yar codkayga markaan hadla codkiisa ka daba dhacay ma fahanteen marka waa mahadsantihiin dhamaantiinba markaan qofka la hadlayo soo qabata trade ma ku soo qaban karayo qofkii kala koolkii ugu jira marka aan jaro soo qaba soo qorsan hello assalaamu calaykum alaykum salaam ayaan soo dhawaay waa xamdiye walaal waa dhawe maasha Allah laakiin waxa raba hal shay ina meeshan ka hadlo cawad aniga oo idin qisa waxa waaye nimanka Soomaalida waxa moodaa inay hilmaameen مي مقشة هذا حمدية ولا على نمك سمعت وحيل ما من هالشيء تاسو أنا بدي وحي كهل ليس بدنا وحي هيك عاوي إما عاوي
ragga Soomaaliyeed waxaan moodaa hadday naagtooda caawiyaan ogaada u cariisana iga raali noqo hadday reerkooda caawiyaan waxaa moodaa inay ceeboobayaan Yurubaa la joogaa ama waddan gaalaa la joogaa ma rabaan inay naagtooda caawiyaan ninka wuxuu ka fikiraya oo keli ah tiisa naagta waxa u biilaya gaaladii uu soo shaqaysanaya lacagtii koonto gooni ku shubanaya naagta ma tusinaya والله أنا وحنا قصنا وحنا أنا هوايا هاي الحمد لله إلما هيستا نسوا ماليا نوع الطبع لكن هو يعاوية مركب لكن بنانكو بحنا وحارقنا سكوك وين ناكي ولا سكوك ناكي محدي يعني هذا مين مقشع waxaan ku iri qofki yaani in lagu ceebeeyo ninka ragga ah hadii uu reerkiisa caawiyo in lagu ceebeeyo midnimada Soomaaliyeed inay u arkaan naagaha kaliya inay yihiin ma fahamta yaani ma inuu ayaan waxba ka dhaxqaynay insha Allah waan soo qaban doonaa ayaan mar kale farta soo tagayaan hadana maqlaysid waad mahadsantihiin dhamaantiinba Mukhtaar Qando walaalo kolfi waa mahadsantihiin share gareeya barnaamijkan gaarsiya ninkii uu gaaray haddaad share wada siisaan intiina ku jirta tan farta dhag ku siisaan asagii ordayo videogiisa ugu dhacaya qof saaxiibkiisa ku share gareey karaya ma fahmaysaan qof khadra waxay soo qortay FIFA bay tir ima dhagax ninkii fahmi karayo ba fahmi karaya ma dhagax ya waa mahadsantihiin Zainab baan soo qabay Zainab kariya soo qabanayna insha Allah gabadha u qoran tahay Zainab haday qaban wada chance ka faa'iideysan weydo qof kale ku xijin doona insha Allah Zainab kolki hablaha ayaa qasaaraysay wiil baa markan leh booska Muhammad baan soo qabanayna insha Allah Muhammad ha ninka xun oo dhan dumar oo share siya السلام عليكم عليكم السلام ولا شيء وادوهاي marka ugu horeysa adiga iyo umma Soomaaliyeed ee daawanaysa waa salaamiya ma garan waxaan rabaa marka wax yar inaan dooda kula wadaago horta walaashay nimanku isku mid maahan naaguhuna isku mid maahan waxa weeye qof xun iyo qof wanaagsan nacas doqon qof walba waa lagu wada yani marka hadii nin aragtaan doqon ah oo markiisu ugu horeyso inuu nin yahay inuu naag yahay inuu sharaf leeyahay aan la ogeyn hadii aan nimanko dhan aad u aaneysaan oo case uga dhigtaan waxaan manihi de nimanka waxa ku jiro waxa weeye nin geesi baa ku jira nin aqoon-yahana baa ku jira waxa ku jira nin wanaagsan baa ku jira sheekh baa ku jira marka nimanku isku wada mid maahan marka same way in isku case ka dhigtaan dumarkuna isku wada mid maaha faraheena isma sinna Soomaa saasoo kale iyaguna yihiin u soco exactly marka walaasheeda qaali dumarkana sidoo kale dumar qaali baa ku jira sharaf leh baa ku jira marka mideeda kale midna ogow dadka inta fiican la isku guma talagalin gabadha fiican nin xun bay ku aadaysaa ninka fiican naag xun buu ku aadaya ma garan anihi waa la kala duwan yahay macnaheedu laakiin ma ogtahay ayaamaha dambe nimanka Soomaaliyeed inay waasheen maya abay waxaani waxa weeye horta waligood way jireen dhinacayna racmo ogolidin dhageyso walaalo ninkii isagoo xaaskiisa xalaal ah oo waliba ay sariirta saaran yihiin kamarada ka soo duubay oo Facebookida lagu faafiyay nin buu ahaa Soomaaliyeed ninkii yiri inanteera masaakiinta waliba 18 mise 16 mise 15 dhaxaysiirinaya ma jeceshay xaarkaaga soo cun war qofkan dumar ah waa nus ma fahmaysa waan feedadaas laga abuuray hadda waa feedada ma ha jeexaaga xitaa feedada ay weeyaan qofka dumar ah وإن يد إنا أغلى علسيد بس الرسيد هذا يد ولا ولا شيء يقول سومالي هذا يقدر كذا هذا التواني ما يهين تكسي واشان أنا أنت سكدر قاسة ما أنت الرجل سومالي ما أنت ريجي كرداش كولي ما يهرت أبا وادر قادنا هنا معنيه tolerance وأقول إن هاي لكن وحنكون شيء يا أرتنين حندذيسة يوحيالها ده دمر كوا حندو مركوف كحاس هذه هاي ومعنيه مقارنيسا ومعنيه just وأضو درك إسكت يقول كلام مركو وأضو حاسكاga waa macuustaada duwantahay
bucuustaada hadday kaa dhacdo waa lagu arkaya waa ceeboobaysaa saas weeyaan dumarku waa adigoo dharka iska dhigo kale marka xaaskaada iyo caruurtaada iyo ma garanaysaa waxyaalahaas hadda dadku isku joyce maahan isku aragtina maaha isku fikrad maaha nin baa waxaad jeceshahay neceb nin baad waxaad neceb tahay jecel marka dadkan meeshaan dadkiina waxay noqdeen dad oo ma garanaysaa wada negative qof markaad wanaag sheegay baad arkaysaa boqolaal qof oo caynayso oo wax ka sheegayso oo ku mashquulayo oo qofkii xataa laga yaabo ma garanaysa in yar haddaad yeelato dadku waxay ku leeyihin meeshaan buu ka qalluucan yahay kan buu yahay kan dadkii saasay u bateen mani dadkeeni I don't know waxa ka qaldan ma garan karayo xumaantaa dheeraysa labada xumaantaa dheeraysa laakiin maxaad kula talin lahayd ninkaas oo maxaa la soo waliba naagtiisa iyo ilmihiisa u bahdilaya naag kale video u wadi oo dira naagta ay faafisay okay abaay macaan horta waxa weeye dumarka Soomaaliyeed waa nala dhasheen wayna dhaleen waa idiyaalkeen habaryaalkeen adikana ogaada wiilasha Soomaaliyeed way idin dhaleen waa idila dhasheen ma garanaysaa waa abtiyaashin waa adeeryaashin marka ma kala maarano macnihii dad waxaan isku baahan anaga horeyno sheegay lama kala maarmee hees baa ahayd lama kala maarmo dumarkuna waxaan ku yiri waa uliya dir baynu isku nahayba waadna anaga u fiirso waayna dhalnay waan inii dhaxnay ma garanaysaa waad calashan waa dhali doontaan dumarka laakiin iniga qofka dumar ah waa jeex ma fahmaysaa waa feedhaada adna boqolaa lagaa dhigay iyaduna waa nus inaad soo gudbisid amba naagkale au marka taas maya wallaahi walaal qacali horta dadku isku ra'liba maahanba aniga xaas caruur i dhasho ilaahay awlaad iga siiyey inaan dumar kale haddii aan damca inaan guursado oo ifan xataa waa ina ayada la tashtaa oo aan idhaahdo walaal ma guursan karaa ilaa maadaama marwadeedii igu horreysa aad tahay garanaysaa inaan wiilkan fifa baan leenahay waa mahadsantahay walaal shukran aad baan ku salaamaya marka walaashay aniga waxaan leeyahay marka dumarka hala kala xishoodo gabdhahana hala xushmeeyo wiilashana hala xushmeeyo in fiican baa ku jirto wuxuu waa isku wada jiraan dumarkuna ma wada xuma ragguna ma wada xuma marka waxaan leeyahay walaalay arrintaasna aad baan uga xunnahay waa aniga khaasatan personality qof ma matala anigu codkayga iyo ma garanaysaa anigu keligay baan ah waaxid baan ah ma garan marka waan ka xumahay gabdhaha Soomaaliyeedna waan ka raali gelinayaa kulay waa mahadsantahay walaalo uu raali geliya waad u jeedaan wina raali geliyay dumar wallahi dumarkii maanta way dagaalamayaan waxay taagan yihiin rag ma jiro rugmada alayda habarka ka kala daay waa rageenayeen oo keerino na u yara qafiifiyada wax yar u qafiifiya wax yar insha Allah qofka ku xigan chance la siin doona insha Allah ma xaway maalinba meel bay ka shidantay maanta rag ay ka shidantay no xisii celiya ragow ama hadsantiin dhamaantiinba shukran share gareeya ninka gaarsiiya وما حسنت علي حسن ولا على دادي تاجر شكرا بانكولي ولا لا تيرو تشوك بانكولي هاي عمر بن سوق ويلكو عمر وقرني هاي قبا عمر وهدادنا مقلسيد الله يدمرك سوماليد عاوي كعسين يا حفارك كدعيا قيلada ka dhacaysa يا بشرتنا كدا soo dhaw عمر السلام عليكم عليكم السلام soo dhaw bowe maxaad ka leedahay arinta maxaad ka leedahay ninka walaal maxaa lahaa horta marka hore yani maxaa lahaa yani wala socda ya barnaamijkaaga maxaa lahaa waan maxaa ku xiranahay wala socda maxaa la social media waan arkay gabadha waan arkay laakiin gabadha ninka duuwaayay ninkiga ma aha haye يعني نكيدا ما صوبته نكيدا هدو يهاي السجا أيو محل فيديو أيو يعني اسكو يعني أدلة وجهه إذا جايسو عم برتا سؤال كاسيو waxaad ninkii duubay ninkeedii maaha markay xamaalada xiran tahay madaxana qaawsay sariirta tagtay jiiftay ma nin kale ajnabiga ka duubaya kamarada u imanaya qolka hurdada la galay maya kule waxa waaye يعني محاول مغنى يعني وحاول وويل سحبيهن أما درسكيهن أما يعني المعيديهن أما الماديهن والله وبيت الله أنا كأبو باي
وأي نينك ما يدو مدح هذا قوانتي حمالات حلنتي قول كذا سرت هردود كوشرتو وأي نينك وجوجليا وكمرتك صدوبيا أو شارك لا عم بين أدير مايا نينكاس ما دقيسو محلا فير دقيسو نين محلا يعني نين محا يعني حاس كيسة أو فيديو محا كدوبايو أو أيضا محا قيلنيسو أورنيسا محا يعني ساسا كوسمي ساسا محلا أيان كوداي ولا لو محا يعني اسمها فهمينو نين كدوبايو أو صوماليا إن الجريم أبايو marka ragga Soomaaliyeed eega ma waxaad soo dhajiseen marka waa nin ajnabi ka duubay kule waxa waa yar saxabi yihiin way oo diris yihiin ama yar maxala iiga maxaa yani isku yani ehli yihiin way ay tiri aboowo war dumar oo waa adigi bal maxaa video maxaa rabaa yani iga dub maadaama ninkii aniga yani qabay أنا يعني يا أو محلها أن كل عني يعني وحاربا إنا ديجو محل سوشيال ميديا عمل وانه واري دقيسو نهنولا هانا نيجي دقيسو نينك ما تقانتا نينك ما تقانتا نينك ما تقانتا لكن أنا مسكحية مغنى أنيق محل مسكحية Soomaaliyeed baa dib lagu sameeyay naag bal fadeexad iyo ceebta la raadinaysa waxa tiri naag madaxeedu qaawan yahan aragno oo qolkeeda sariirta ku jirta oo waliba xamaalad garbuhu go'an yihiin xiran oo qolkii hurdada loogu talagalay bilaashan dhaqarta inuu noqdo joogta ayuu kamarad waaya ninka jaarka amba deriska amba saaxiibaha kamarada ka duubaya waayo waa fadeexad kale حال فير دقيقة دقيقة قبضة محل إيش محل يا مقاونة قبضة مقاونة بس ما مدح ده ما داون كان مدح قاون تلقى يا بان بحمالة حرن طيب وماشي مدولة ركوب بختيو كدوبيو ما يا قبضة يا مقاونة أنا أركي فيديو أنا أركي أباي ما أنتو هرا يداف وحنا أنا وأركي وحنا داود يا قديم أنا أركي سبحانك يا عدي ورجع سومالي ده وانت سقمن هايين حال جوبشوغا بحين وانيني دحنا ده ما فهميسان أنا شواد نور دحدين وين مقرن سوين اللي نجر على نقطة أنت دي لاين بوشو كليه هاي نينشاركة أيا كدوبيا يرأس صاحبيهين عملنا ورياده يا نو مسلم عندك حما رجع قاركود سبحانك يا عديم وريا سوق بتاكله فرت شو تاجن واتورة ما هتنتي ما يقفكي قفل بريجيسة إما كأنك كانوا حاسوس كده دعي ساقي مضو بيا قف كرا ضوي ناو وحكي الجامعة عليكم السلام سودو واندوه ولا على يورا ساتها حمدي يعني محد كلا ده أنت والله ما شاء الله أنا رامي وربان كوي حقا يمسو قبتيدي تحام بات ورعاوة عارف فيه تعاون لكو كرباشي يا هذا ما عليك كرباشي يا سيدي بس الرقص سوماليات كمد متي تينا الرقص سوماليات نورتيان اسكودا قاين هاي ويكلو وناكسيهين horta ninu khalad sameeyay deeyaan la oran inta wanaagsan waa in lagu dhuudhuubana waxba ku filayna naa way ku filayeen waxa ku inta wanaagsan iska ilaashada oo rag oo dhan isku qaadqaadina maxad kale way arinta maxad kale haday walaasha ahaan lahayd naadeerta ahaan lahayd abrodaagta ahaan lahayd gabadha imiko walaasheen waa gabadh muslim ah Soomaaliina leh maxad sameyn lahayd wallahi walaalo horta arrinkaas isaga horta waan arkay aad baan uga xanaaqay horta markaan arkay ma garanaysaa isagana wax walba kaga xun tahay waayo isaga cid walba ugu dhow waa carruurtiisa tii dhashay weeyaan ma garatay hada way waayo isaga wax walba isaga ugu dhow isaga ceebtiisa tahay laakiin si waxmoodiya isagu yada aabaab is lahaa walaalkii iyo yada isaga labada ka xun waayo tii carruurtiisa dhashay ma garanaysaa hadduu ka naxayaan bajurugu yaala banaanka muu soo dhigeen markuu arkay mid yaro cabaar isqorqorxiso shalmad dhalaalka markuu arkay buu fiidiyooyinta ka duubay ayuu fiidiyooyada u diray naagtu shukaansanay naagtu baa Facebook soo gelisay isaga muu soo galay naagta soo gelisay ma fahanti naagtu baa soo gelisay ma London buu degan yahay ma fahanti marka damir naagta kaliya ma aha taa soo gelisay waa naag moogtay tan laga duubana waa naag laftigeeda qaar bay taxaan maya ka duubaan isku haynaa naagta soo gelisay wanaag doonaysa inay ninkii naagtan iyo reerkan dumisay si kala fogeyso weeyaan oo say ninkan chance uu hesho u rabta laakiin ninka naagtiisa intuu duubay ilmihiisa iyo gurigiisa naag kale u dhigay ka war mana ka soo xumay waa kaas waxa weeye waa animal weeyaan macnaha waxa weeye xayawaan caadi weeye maskaxdiisa kuma filla waa nin waalan gabadhan baa waxaan ku rogtay program ku shubtay gabadhan yareed baa tiri mala soo duubtay macnaha wax cadeyna la kaala bay tiri ma garanaysaa على كل حال وساونا هذا الشيء هاي حركة كسوعن كيرو سنين صوماليات مهاي
ده هو شكله adigu xaarka metelaysa ma ogtahay xaarka way daba socotaa waa wiilka sheekada maxaa ka dhiman dee maxaa ka dhiman sheekada xaarku agtiisa maraysaaba hooyo Soomaaliyeed والله gurigeeda أركز joogto ninkeeda أركز jecel لكن oo ممكن كل ninkeeda شيء waansanaysa oo waxyaabo gar ah waxyaabo ركز gar ah ka hadlaysa warna raac warna caawi war imaha ila soo ciyaarsii war inantaada iskuulkiiba buuxisay kaalay maanta xafladda ii raac waxyaabay kala hadlaysa waa waxyaabihii qoyska loogu baahnaa ninka gabadha ragga hadda gabadhan maaragtay ceeb horta wax ceeb oo maaha gabadhan hadda wax ceeb oo lagu ma samaynba codkeedii baa duumaya wax ceebana kuma hadlayso bada run baa fiican wax ceeba maanta ay ku hadlayso mare laakiin hadday ceebayn lahayd ay gogoshiyo balaayo ka sheekayn lahayd soo muu soo dhigeen muu cafin lahayd way soo dhigi lahayd muu cafiyeen wallahi muu cafiyeen dee gabadhaasaa soo dhigi lahayd intuu diro dhaho waataa gabadheedii fiiri ayay soo dhigi lahayd laakiinse wax ceeb oo kama sheekeyn horta alxamdulilah waxaa ka sheekeynaysa waxa weeye ninuna caadi iska dhigo qof caadi iska dhigo isagay waaninaysa ma garanaysaa gabadha maxaa gabadha kula talay ninka inay iska cafiso ilmaheeda aabiyeed mise inay maxkamad la kurtaba ay xidho wallahi walaa aniga waxaan kula talin lahaa ilaahay baa faxan laakiin meel kale ka helaysa ilaahay baa meel kale ka siinaya ninka isaga ah inay iska cafido laakiin ay ka digtoonaato wixii dambe soo socda FIFA maama malyuun soo wada qora hal mara FIFA maama malyuun boqorada dumarka madaxweynaha dumarka FIFA baan leenahay maama malyuun FIFA waxay sheegaysaa inuu dhac ugu socda iska qabtabay dumarow san aniga u dulman ha u dulmantiina banaanka u soo baxabay oo runta sheega FIFA maama malyuun baan leeyahay waa mahadsantihiin naag aqli badan bay ahayd maasha Allah ha walaalo waa mahadsantahay naag aqli badan bay ahayd sharaf leh ninkii aan caayin balaayo gogol ka sheekaynin faamilkiisa caayin ilaahay rasuultoonaan caayin laakiin wixii danteeda aha ka hadlayso laakiin marba istarantay inuu duubayo waxay tiri weligaaba iduub bay martiri ahay waa mahadsantihiin asxaabtay ku xiran FIFA malyuun ba soo wada qortay shukran aad ba u mahadsantihiin nooc cafis asma waxay tiri nooc cafis maba cafiyeen kaas waa run dee soo qow adigi lahaa ku soo qabteen booska kaale insha Allah booska rag waan ku tumaya shalay baad natumaysa soo bax adnaanow soo bax FIFA maama malyuun yes FIFA maama malyuun waan leenahay wax run ay ka hadashaa wax run ah dhibaato hooyada Soomaaliyeed haysata gurigeedii ma garanaysa xaafadeedii cawrteeda haysatay ka hadashaa oo run ah runteena Soomaali ku nacaysa wallahi billah maanta laga bilaabo ragow ogaada wallahi inaan la cafinayn halkaas ay nili soo fadhisanaya anu markayga hore waan inii sheegay dumarka iyo ragga ani dumarkan taageeraa marka facebookiga laygu soo darsado rig saasan xidhaa ninkaas kii nin aha xufan ku dhaafaa gabadh meeshan ku arkana dhalab aan soo qabsadaa wala mahadsantiin wallahi billah maasha Allah qawiin asma abay ma lihid kol video ma lihid iga raali noqo walaalo kol video ma lihid عمر واحد reer Djibouti عمر Djibouti ay soo qoray aniga Djibouti soo saaray waa mahadsantihiin shukran bayna leeyahay dhamaantiinba waaw warcaa maamuliin meeshii to timaaday fiicnaan lahayd faraawilada dhacaya magaceedu la qoraya FIFA yes waa anaga waa afhayeenkeena waxa weeye waa yaneen maxaa la dhahay amal waa amal Cabdullaahi marka waa ina rag la iska celiya hal gabaro oo wax samaysay oo wax ka soo caashay ninkeeda waxa ay sameeyeen ninkeeda ay soo bandhigtay ya amba haynaas dambiyeena hinaasne oo soo bandhigtay ayaa saargii oo dhan ugu soo yaaceen yaw si wadaadaduna soo fadhisteen walaal kor video ma lihid maxaa u diiday inay imka ka hadlaan arrimahan qoysaska ku socda imka maxay uga hadli waayeen war maadeerayaal runaan isku sheegno Soomaali ragga Soomaaliyeed oo dumarow ajnabiga aada FIFA ajnabiga walaal ajnabiga muslimka waliba hello السلام عليكم عليكم السلام soo dhaw gudoomi حمدي حالتك ورن waran fiicanahay bal baryahan dambana waxaan ku rag ma ku kacsanahay انا ما هو اصلا برقه Soomaalida wax lagu kacawayaan ma daawatay fiidiyoda ma daawatay wallahi waa daawada wallahi aniga dad luuqa ay lagu soo diraaba leeyahay waxaan daawo ma garatay hada weyn sam baynu nahay marka anigu de raayigayga hadaan ka dhigto anigu horeyna waan ka hadlay qadiyada ragga iyo dumarka ma garatay horta dumarka Soomaaliyeed abaal weyn baan u qabaa anigu sharaxatan ma garatay maanta Soomaaliya hadaan dumarka Soomaaliya aanay joogin ber hore baan gaala noqonahayno aan dhibaato badan nagu dhacaydo wadankeena bal waayla ma garatay laakiin dumarka Soomaaliba ayaa haya iyaga dadka masaakiinta caawiya
iyada in adeerkeed saddexaad iyo in adeerkeed tobnaad dhaqankoodii iyaga odayga ku dhigsan qaba lacag ka soo qaada yani maasha allah dumarka soomaaliyeed anigu waan u mahad celinayaa waxaa timi arrintan wiilkan uu sameeyey waa dhaqan lagu yaqaanaba anigu waan la yaabay anigu ninka carabaha ku koray baan ahay annaka dumarku xishood bay naga leeyihiin ma garatay aad weyn iminka anigu gabadh baan qabaa haye gabadha aniga reerkeeda iyada madaxay saaran yihiin ma garatay anigu makhaayad ma qabti makhaayadna ma fariisti dhalinyarna ma la socdi waa gurigeyga iyo shaqadayda amba iskuulkayga iyo shaqadayda ma garatay iyo aad weyn gurigeyga ma garatay jaaniska niyada waayo siiya ها ما قرأتي كانت كم حق بيقول لها هيدا إن هذا haye العنتدي بيكرنسا جورجي بيحارسا دركي بيمارسا وحالي لها وحا صورنا بيمارسا مركا وقت haye انتنسيو دي حق بيقول لها يدا حق يقول لها ما هذا الحنو صدو لأن هذا أنا قلنا سوماليا أنا مسخوش يلقي ما يحارنا يجمع ماي كهذا يجمع مايو يدا يجمارسا taasan been hayn ما haye قرأتي haye حتى مركا داء النقضو دي آباي هو يدي أنا إيسو مير ماين حتى ولا شيء إيسو مير ميسو وحلا رأي ورحاس كيسو يارا مسخوش على قشاو ماده aad marka weyn horta waa in la fahmaa qiimaha ay dumarku ay leeyihiin wax kasta oo dhaca aakhirka waxa weeyaan gabadhaada unbaa ku asturaysa gabadhaada unbaa waxa la yaraa wax ku taraysa laakiin ragga Soomaali waxa ma yaqaanaan ma garatay dumarka way xaqiraan dumarka waliba qaladka ugu weyn aan saaray horta waa dumarka anigu qaladka waxaan u saarayo waxa weeyaan maanta xamdaay adigu waxa leedahay carruur baa leedahay wiil iyo gabadh baa midna leedahay hadda adigu soo istaagtid gabadhay walaalka ka xishoodo ordo cuntada u soo kari dee adaa markaa bloobaya inta gabadha la xaqiro iminka Yurub waana ka joogna dadka Yurub jooga ee gaalada ah wiilka iyo gabadhaba madbaxa la geliya markay yar yihiin ninka wiilku kaligiisa cuntadiisa soo samaysanaya gabadhana cuntada soo samaysanaysa marka cid isku baahanba ma jirto ma fahamti markay weynaadaana dee ninkay naagta adiga aragtay ninkuna shaqo tagaya gabadhuna shaqadeedii bay tagaysaa lacagta ka dhaxaysa kiradii baa ka dhaxaysa ma isfahmeen waysana laalayaan ma isfahmi waayeen cidna ma isku baahnaadeen ma fahamti waxa weeyaan wax kastaba waa educationka adigu haddaa gabadhaada berisid aa leedahay ninka walaalka dharka u soo meedh walaalka dhulka u xaadh walaalka saa u samee waa nin yaa lala hadlin yaa dee adiga markaa ka dhigaya waxaana qiimo lahayn dumarka ma garatay aad weyn waa mahadsantahay ma garatay marka inaku bal horta waxaas imika way dhaceene caruurtiina imika soo kacaysa inaadan caruurta yaryar weliba dhalinyarta bara inay gabdhaha ixtiraamaan bara inay gabadhu walaashood ay tahay ay qiimo leedahay waxaa la yidhahaa bara inuu cuntada isagu soo karsado dharkiisa meedho inuu isagu isdabero kabacdi markaasaa ixtiraam iyo qiimo helaysiin maxaad kula talin lahayd hadda gabadha adnana anigu gabadha waxaan kula talin lahay Yurub baabay joogtaa si u hadlayso ma garatay adeer Yurubna ma la isku baahna caruurtana adigaaba iska leh Yurub waa la yaqaanaa caruurta gabadha qaadata ma garatay adeer ninkan saddexda habeenimo ku imanaya ciyaal suuqa ah Yurub meel la isku joojiye maaha adeer ninkan booliska oo 99 ka wac albaabada ka xiro maxkamad saar fiidiyoyada qaad aabihii dhulka la galo hadday jeceshahay ka war intaan ismiisay hadday jeceshahay iyada u taala ma qasab ba hadday jeceshahay ku jeclow hadda ka jeceshahay waxaa loogu hadlayaa hadday iyadu jeceshahay waa danaheeda laakiin anigu shakhsi ahaan baan ka hadlaya aniga walaashay hadday tahay anigu waxaan ku hadlaa adeer ninkan iska fog ninkan facebookada kusoo dhigay wuxuu ku hayaa ma jirto ma garatay isagana shaarican dhulkaasa ku masaxi lahaa goose waayo adduunka waxaa ugu xun nin cawradiisa soo saaray inaada ka waran anano hadduu seedig ahaan lahaa ka war walaashaa qaba maxaa ku samayn lahayd maanta waaban dil lahaa baan ku yidhi waaban dil lahaa wallahi inaan daayin wallahi aanu lolaadeen waayo gabadha waa walaashay dee wax kan u guuriyey inuu igu asuro baan ugu guuriyey maan u guurin inuu facebookada isoo dhigo iyadoo qaqaawan oo iyadoo barooranaysa intuu isoo dhigo hadduu dacwad ka qabo gabadha hadduu dacwad ka qabo intuu aniga ii sheego ilaa niyo walaasha waxa saas ku haysanaaye kaalena soo dhex gal haa laakiin inuu video ka soo duubo oo facebookada soo dhigo dee waxa weeyaan kaasi nin ragaba ma ahaba iyadaaba haddaabay sii haysato iyadaa nacasa waad mahadsan tahay maalmahan dambe facebookyada waxaa ku jiray inan la yiri wax jacayl la dhaho jacayl baa jira la leeyahay Soomaali jacaylna ma taqaanto waxaas dhan jacaylkii romantiga waxa la dhahay isdeen barta markaas dhan hablihii xaar soo cuna
markaas isagoo sariirta saaran buu romantic inaan aqaano soo duubu soo dhigay waad aragtaa ninkan hadda maxaad kula waanin lahayd bal ummadda Soomaaliyeedna ku maqashay dhalinyartaana ku u fari lahayd waxyaabahan dambe والله horta waxaan kuu sheegay inaad horta gabadhan la yiri xaarka cun haddii xaarka cunto waa dinaheeda iyada xagaas dhigtay cidna ma dhigin inta laga xanaaqaba maaha nin baa yiri waan ku jecelahay isoo cunxaan haddii ku jeceshahay de khalaas haddii xaarka daraadii u cuntay iyada u taala gabdhaha Soomaaliyeed dhan maaha laakiin anigu gabdhaha Soomaaliyeed waan la talinaya inaadan anigu gabdhaha Soomaaliyeed waan la talinaya tala siinaya waxa weeyaan marka ugu horeysa inaadan Facebookyada fiidiyoyada waa lagala soo bixi karaa waxaa la yiraahdaa Snapchat-ka fiidiyogaaga waa la soo dejisan karaa WhatsApp-ka fiidiyogaaga waa laga qaadan karaa social hatta website haddaad gelisid toban baasword gelisid waa lagala bixi karaa ma garatay barnaamijyo badan ee technology jira si wax loo qaato ninkani haddaanu ku qabin haddaanu si rasmi ah familigaaga kaaga soo doonan dee ma ahaba inta jirkaaga iyo wejigaaga iyo waxaaga u dirtid ma garatay hal su'aal kii qabay waxa sameeyay kii la aamina marka kii qabay oo ubadkiisa inaagtiisa waxa sameeyay fiidiyowga ka dubaya la aaminaya marka walaal te inaadan waxa weeyaan horta kan gabadhan filim ka soo duubay horta kaas waa nadil inaadan markii hore iyada nadil doonatay oo jeclaatay waxa weeyaan qofkii intaana guursan waa la baaraa de hadduu yahay nin jilic oo nin nacas uu yahay de maaha waan jeclahay inanka yar qurux badan yahay uu yara cad yahay oo bidaaya oo khafiif u leeyahay aan ku raaco waxa weeyaan inta la baaro oo marka isku hubti waxa sameynaya anaano waxa sameynaya boqolkiiba boqol waxay u badan yihiin ragga amba 18 iyo 25 waxa u dhaxeeya marka anigu waxaan kula talin lahaa rag ahaantayda xamdi ahaan dumarka Soomaaliyeed intii imaka madax banaan amba intii single mother ah odayaasha waaweyn xaqiisa u leexda 50 ilaa 60 waa fiidiyowgii ceebtada ma soo bandhigayo inaadan waxaan ku sheegay anigu saan u arkay dhalinyarta Soomaali horta dhalinyarta Soomaali gabdhaha Soomaali waxa u arkaan bay taani waxba ahayn horta aan ku sheegay waxana waa education waa tarbiyada ma garatay qodobka labaad waa ummad qabiil lagu beeray ma fahamtay yani hatta gabadhan mumkin dad badan baan ka hadlin oo dad badan oo qabiilkeeda hadda ku soo galayaan luuqa ku oranayaan gabadha waxaan uga cabeynaysaa anaka heshiinayna xaqeedii qabiil ahaana waa lagu diiday waa basa xaqeeda la duugsinaya imaka ninba ka horeeyaan soo qabtay wuxuu yiri ninkeedii maaha ninka duubaya waxa weeye waa niman kale uu soo dirsaday sidee baa anigoo sariirteedii aaday oo maryahayga hurdada xidhay xamaada xidhay madaxii qaawistay sidee buu nin kale ajnabi ah kamaradiga duubi karaya waa in adeerkii amba wasagii baabu ahaa eeran uu leeyahay teemaha ma way dhici kartaa inaad intuu isagu nin kale ka haystay oo uu ku yiri niyo kaale bal gabadha waan ku tusayaaye adigu laftaada video ka duub aniguna waa la hadlayaa ma garatay adan ku dhiibaye filimkii hore fadhiga fadhiga shaha xabse waa la dhihi karaa laakiin markay hurdadii aaday sariirtii saaran tahay ay madaxii maradii ka dhiftay ay xamaalada qafiif ka xidhan tahay garbaha go'an tahay manin ajnabi ah u soo galay ka duubaya kamarada inaadan maaha mid ajnabi ah hadday rabto inaadan waxa weeyaan dadkan horta Soomaalida inaadan horta iga maqal inaadan ajnabiga maaha walaal ajnabiga ma ka sheegayo qofan Soomaali nalaahayna qabiilada kale amba dadka kala dedegaana istii Afrikaanka iyo cadaanka ma ajnabiga naagta ninkeedii uba xalaal u tahay nimanka kale xitaa ma salaami karto diinteena gacanteeda oo saas kuma salaami karto inaadan ninka ogol gabadhiisa inta video laga duubo inaadan maqal nin doonay gabadhiisa inta video laga duubo inaadan haddii maqsan hurdada tahay amba haddii fadhi tahay ragga uu soo gelinaya horta waa dhiig ma laha stop idhaasa madaxay mara saaran salaad ka shidanaysa daaga maqade haddii doonto iyadu waa careysan tahay iyadu lafteedu gabadhani ninkani wuxuu gaarsiin xaalad ay waasho ay maqade inaadan wallahi way naga diidaniyo bye bye ciao ciao inaadan nimankan waxaa qaladanaya aruurta ku sheegay way dhici kartaa maya aan si fiican baad u hadashay od kor baad tahay dumarka xalka dumarka maasha Allah waad ka baxsato fiifa cadna wata lagu soo qorayo laakiin waxaan diiday gabadhii oo jirkeedu qaawan yahay qolka hurdada joogta leerku u baqtisan yahay kamarad inta laga duubay haduu dan xudhaya waa mobilka tooshkiiba ku shidaya u dhahaya ee hadal tooshkan ku guufinaya iyadana waa iska maskiin way dhici kartaa laakiin inaadan waxa weeyaan anigu talada siinaya gabadha ugu dambaysa inaadan Yurub baa la joogaa carruurtaadana adigaaba haysta ninkan hadduu naag kale iyo wax kale iyo arrimo kale ku jira dinihiisi weeyaan adoo carruurtaada ilaasho ninkanna adeer cawradaadaba soo saaray maantana video uu ka duubay adigoo waaba asurnayd waxa adduunka ugu daran mar dambe intuu ku soo noqdo adigoo qaawanba ku soo sawiro aad weyn ma santa gudoomiye marka insha Allah okay way habeen wanaagsan gudoomiyaha aqligiisa ma sha Allah fiican yahay oo inayna taageersan yahay dumarow laakiin wali raggii wax isku haystaan nin kale ka soo duubay si nin kale uga soo duubi kariya naag madax qawan hadana leey ku baqtisan yahay
see nin ana timahaygu qaawan yihiin oo hurdadii joogo ma garanaysaa mara khafiifa aan xidhanahay si oo leerkuna ii dansan yahay soo nin kale wax iga duubi karaya samsam qabadee samsam abaayo qabo kusoo qabtay samsam qabo jaaniska ka faa'iideyso 1 2 3 waad ka faa'iideysan weyda qof kale soo qabanayna insha Allah waa mahadsantiin qalanjadan ku celinayna qalanja nuur gabar ay u qorantay qalanja nuur markan jaaniska hablaha weeyaan ragga iska dareera waa jaaniska hablaha ragga baa laga rifaya qalanja nuur waan ku soo qabtay abaayo qabo jaaniska ka faa'iideyso qofka ku xigan siinayna insha Allah jaaniska hadii kale yes qalanja soo dhaw abaayo hamda seetaay soo dhaw fiican maxaad ka leedahay ayaamahan dambe raggiya soo qaatayba wallahi billahi waa wax lala yaabo de wax la dhahaba garan mayno afkii gacadkiiba isku kaaya dhigay arrintaa xalay 10 jeer baan ku celceliyay videoga oo aan furay oo aan xiray oo aan rogrogay oo aan ilaa iyo kommentiyadii baan soo akhriyay saan u xaqiijiyo waxaan waa wax caqliga gala ayay ila noqon weyday nin xaaskiisii caruurtiisii oo saa u hoos jijifta video ka duubay inkastaan ceebiba ka muuqan oo ay gabadhu si wanaagsan oo sharaf leh hufan ay u hadlaysay oo naagde codkaraba ay ahayd oo khaladkiisa dhan ay tusaysay laakiin isagu hadda iyada muu ceebayn isaga ayaa isceebay sharafta iskaga ciyaaray ila dad jaar laah baa jira xitaa ay yaqaaneen oo family-kii anigoo heblaaya ninkayga iyo intii family-kii labadii family baa xitaa is yaqaana gabadha maxaad kula talin waxaan kula talin lahaa gabadhaas maanta gabadh u baahan ma aha inay nin daba carcararto ubad bay haysataa yurub bay joogtaa alxamdulilah ma garanaysaa inay hore u socoto ninkaana kutub bay soo saarto waxay tiri kutubka intay saa gacanta u saartay ka dhaaratay inaadan dib igu soo noqonayn sidaa ha kaga ahaa fariid kaasay waan arkay inay ka dhaaratay intay soo qabatay kaa soo maaragtay kutub dhan ay la soo baxday gacantay ka saartay waxay tiri saasaad iga tahay waxaan rajaynayaa inaanu dib ugu soo noqon ubadkeeda ay korsato hore u socoto qof wax baratay oo aqoon laba ahayd hore u soco ayaan leenahay dumarka la midka ana single motherka ana hore u socdaan leenahay ubadkeena korsada waxba ugama baahnidin ragga noocan ah ee bahdilan ee bilaa caqliga ah ee damiirkuba ka dhintay هذا وين ما حد كله وين اللي هيدوه بلها Soomaaliyeed maanta ragga inkastoo ragga soddon ka yar dhibaatada iyagu geystaan u badan yihiin gabadhiina isay u hadlaysay inuu ninku ka yar yahay waliba jecel hay lahayd nin yar baa tahay nolosha ku bilaamantay sida ay ku lahayd ban maqlaynay maxaad kula talin lahayd marka dumarkan guursanayeen in rag yar guursadaan mise in rag oday xaq odayaasha u baydhaan wallahi aniga waxaan oran lahaa maanta dee naag caqli leh oo og maanta ninka waxaaskiisii oo qurux badan oo sharaf leh oo wax baratay oo aqoon leh saa u soo xumeeyay naagta beri isu soo sharaxaysa ee guursan doonta wallahi taas de waa mid aan waxba ahayn ha abaayo waa mahadsan tahay isla haddaba fiidiyoyadan isagu muu soo dhigin Facebook gabali ninku waa reer UK weeyaan London fiidiyoyadan wuxuu u diray naag kale u jeclaa baa tiri isoo duub naagta haddaadan rabin amba dan aadan kala hayn bahdilaadu naagtan ku bahdilayo u duubay fiidiyoyadii buu u diray yadii baa Facebookyada soo gelisay markaa والله وإحنا نصيب ترى وإحنا نصيب ترى ناكتاس وحي وشيء إن أنا إساق أصعن أو ربين وايو بهدل كان كلي أي قصة ما يستاي كل سنة ندرب هذا أساقي تيسي لو بيستاي تي كلنا وادرتا وحي قصة ما يستاي سوى وحي قصة ما أنت labadaas isku shaqaba ma aha laba isku mid aba ma aha marka rag sharaf leh bay leeyihiin rag akhlaaq leh bay leeyihiin wayna dhaleen wayna qabaan waanu u dhaxnay waanu dhali doonaa inta bila akhlaaqda damiirku ka dhintay ha ka dhex baxaan ragga ayaamahan dambe way soo qaateen nimankii Soomaaliyeed inkasta in wanaagsan ku jirto naamaku haddaad jeceshahay soo cab kaadidaada isoo sawir xaakaaga wallahi arrinta aad baan iyada waan arkay adoo ka hadlaya waan arkay waan daawanaya adoo ka hadlaya arrinta in badan baad aragtay in baraha bulshada ku soo noqnoqotay inantii yarayd maxaan ku raraa ninku sida xun u galay waxa naxdin badan bay ahayd wax aad iyo aad looga naxa bay ahayd tan maanta waxaan ku yiri wax badan oo maxaan ku raday fool xumo way sameeyaan laakiin kala sariirtii iyadoo la jooga jirta ninku soo duubay taas adaa caawa ka maqlay maba arkin ba ani indhahaygaba kuma dhicin ana arkay waa mahadsantahay waliba gabadha kaliin buu siiyey amba qamri buu siiyey Afrikana meeshu ahayd Soomaaliya un bay iga ahayd meel ay ka ahaataba ninkana naagta jirkeeda ka yara cadayd dumar inaan cad bay ahayd isaga qolay ragga Soomaaliyeed wada madmadow yihiin oo dilkiyo balaayada iyo kufsiga iyo dhaca iyo meelaha ay fadhiyaan way waxay dhamadoobaadaan walaad baa ku salaamay aad iyo aad xamday aad baa u mahadsantahay hore u soco barnaamij wanaagsan baad wadaa inta badan waan kugu taageersanahay
hore u socon ku leeyahay xamdaay ilaahay ha soo hadeeyay inamada inta xun inta wanaagsanna waxaan leeyahay wanaagiina ha ka leexanina wadada saxda ah ku socda hablahana waxaan leeyahay ragga iska baadho oo naag walba ninka ay la sheekaysanayso ha iska fiiriso ha iska baadho anaga waaba nala qaba hadda murwooyin baan ka nahay waana ka haysanaa rag fiican maasha allah waxaan leenahay inta calaftoonka calafkiina si wanaagsan isaga baadha isagana hufa هذا وين ما حصلت باي الحمد لله السلام عليكم عليكم السلام سو هذا الرشاق كل فيديو من اللي ذكر على نقمر لبعض واد ما هتسنتين ملك استاد جوكتان وحوي الرق ورعاه ودمر كي كشطنته دمر كي عوي صباح ينساق غبته رق وينو سكعت كيستا صاحب وحبل اسكي علينا سو هذا ان شاء الله شمس ولا على ملي كل فيديو ملي ذكر على نقا هذا وين فيس هذا وين وارنت هذا قرب بالسيد بالك بايس مديرو naagta fiidiyowyada qaaday facebookyada ku soo faafisay ayadana waa lagu soo faafinaya insha Allah ninka waxa ku sameeyay xaaskiisana waxaan leenahay ugu kugu dhacaysata Allah kugu dhacaysa caada Allah kugu dhacaysa ma leenahay soo wada dhawaada habiib soo dhaw walaal halo assalaamu calaykum calaykum assalaam soo dhaw aabay waa dhawahay thank you waa mahadsan tahay wallaahi runtii barnaamijkaanaan daawanayay gabadhan iyo arrimaha laga hadlay ma garat hada weyn maxaad ka leedahay arrintaas ninka xaaskiisiyo xalaal ah oo ubad weliba u haysa intuu fiideo ka duubay naagta wallaahi aabay waa arrin lala yaabo aniga marka hadda fiideogaas intaan barnaamijkan daawaday xoogaa marka haddana facebooka fiirsay marka fiideo haddana daawaday cabaar baan daawanayay runtii aad baan la codkaaga gogo'aya boowe iga raali noqo codkaaga gogo'aya may maqashaa facebookyada ayaamahan dambe waxaasaa ku socda ceebta dumarka ku socota waan soo nacaynaba facebook mana laga xidho walaal war facebook 10 buu soo baxay ayaa naga xidho muslina سبحان الله ما قانو حد سقرته كاسنين مو ahayn qof la wareegaaga bartaas haday walaasha ahaan lahayd hooyada ahaan lahayd naadeerta ahaan lahayd habardaagta ahaan lahayd kuwa dadku ugu soo xigila waa la iska xigxigay maxaad samayn lahayd maxaa kula gudboonaan lahaa ma fahmaysaa ninkaas maanta arbaca haduu dhibaatada geysto bariiq khamiisa maxaad samayn lahayd waxa laga xishoodo ingiriisi baad ingiriisi baad soo qortaa jii baan ka gartay xamda magacayga maxaad ka wada ka hadlaysaa halo assalaamu calaykum dhamaan akhyaarta dhamaan jiweel warama waxaan noo soo qortay qoraal dheer inaadan waan dhowahay maasha allah iyo inkastoo halo assalaamu calaykum inaadan haddaan aan ku darsado nay ra'yigayga wallaahi bilaahi waxaan arkay waxaas iminku baan ka arkay dhankaaga meel kanana kamaan arag laakiin waxa weeysan waa arrin serious ragguna waa 5 farood oo kale ma wada dhamaa laakiin ninkan runtii wuxuu sameeyay waa total out of order waa wax khalada laakiin waxa leeyahay ummadda iyo dumarka waxa leeyahay insha Allah tacaala iyo khayr baan idin rajaynayaa halis dhegaysto raggana waxa leeyahay war hablihiina waa sidii hablihiin oo kale ee ka xishooda iyo waxaan aad soo saaraysaan oo dhan waan ku salaamaya walaal waa mahadsan tahay ninka xaaskiisa iyo xalaal socda inaadan ya walaal anigu waan belief garaysanay cid kalena miduubana waa isaga duuba waa useless wax sidaas oo kale loo duuba maahana xitaa aanay yani damiirka ayaa aad uga dhintay wax sidaas oo kale wallaahi bilaahi loo duba maaha ilaahay baa xalaal uga siiyay hadduu ilaahay u sii xalaal maasha allah inuu waxay ku habbooneed inuu asturo ilaahayna isaga asturi doona ceebaha oo dhan ya markaa waxaan leeyahay anigu wax bilif garaysanahay
waxaa society-gan westernerska aynu u nimid ayaa laga inherit gariyay waxaan waxaa laga arkay shaashadaha tviyadoo dhan ayaan inaguna soo bandhigaynaa aynu moodaynaa inaynu horumar aynu gaadhnay ilbaxnimo ayaanay yani ay moodayaan ummaddu laakiin waxayna moodayn inaynu waxaanu una ka baxayn inuuna ka baxayn facebooka laakiin isagoo qofka imka soo dhigay inuu ku farta ka qaniinaya wallahi aad baan ku salaamay walaal caruur yaryar baa ii garab joogtay aad iyo aad baan waad mahadsantahay walaal shukran dadku kala wanaagsan kala qalbi fiican waa mahadsantihiin sarakiin qabo waaye gabadha u qorantahay nimcakiin siciid insha allah qabo walaashay qofka ku xigan jaanis siin doona insha allah sarakiin jaaniskeeda oo ka faa'iidaysan weyda waxaan siinaynaa bintuna waa jaaniskeedana inay ka faa'iidaysaneen barmareynaya waxaa call video maba lahaba iyaduna sorry iga raali noqda hablahan call video ga lahayd insha allah saa usoo kala horeysaan weeyaan waa mahadsantihiin insha allah waxaan ku jiray waxaan galay 8-dii 9-kii 10-kii waxaa ii tahay weliba hodhadho waan iska seexan doonaa insha allah waana soo khatimi doonaa soo dhawo suuray samura السلام عليكم حمد salaam baa kusoo khatim maxaad ka leedahay arrintaas maanta facebook lala dhex maray kliibka sirtaa kasoo duubay walaa horta markaan laba dhinac un bay aniga ila tahay haddaan faceka positiveka u eego dhinaca positivekaan ka fikiro waxaan isleeyahay qofkaas qof xanuunsan weeye waayo bulsho badan baan nahay in bay naga xanuunsan kartaa in bay naga waalan kartaa dadka waalida maanta joogtaana waa dadka badankooda marya iska xidhayin marka laga yaaba inuu mental walaal ahaa ama uu xanuunsan waalida dhaqantay inuu haba inuu waalida dhaqantaha uuna ku dhex wareeray laba dumar dhinac inuu kolbaba mid u cararo marka dadka ragga qaar baa iska xanuunsanaya walaale ilaahay soo hadiyay inuu leenahay dee waad mahadsantahay walaashay jaaniska igu yara mahadsantahay aad buu mahadsantahay gabadha walaashay nagala qayb qaadatay nimca waxay tahay anaa khatimayaan igu soo gabagabe haye nimca qabo ka faa'iidaysan jaaniska ka faa'iidayso soo dhawow nimco makin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته باي maxaad ka leedahay arintaasan ka hadlaynay maxaa wada daawanaysa abaayo horta arintan waa arin lala yaabo haye 7 aakhirna waan ku jirnaa marka waxaan rabay inaan u jawaabo wiilashii haday lahaa maxay ahayd yacni gabadha videoga laga duubay qof dariska ka duubay mase qof saaxiibkiisa ninka ah baa ka duubay horta waxa wax aqliga geli kara ma aha هذا وين كحمادين بس intuu soo galo yacni maxay ahayd ani hadda anoo gurigayga jooga nin intuu ii soo galo ma iga duubi karo video gabadha say wax u sheegaysana waa la wada arkayo oo gabadha gabar wax sheegayso wax tilmaamayso ninkii hor fadhiya la hadlaysa ahayd هذا وين وابد لو جيس هذا موقنية ساسو لبض لقط سكوت دول سارتا مركز قعنت مصطفى wax isticmaalayo iska dhigaya ma garanaysaa mobilka iyaduna ka duubaya kamarada socota yacni wax aqliga geli karaa la rabaa horta haye marka maxay ahayd qof weyn intuu ani video intuu soo galo dhaho yacni qof deriska yacni qofkaas hadda bulshadii kale wuxuu ka dhaadhicinayaa hadhow waxaad arki social media hadda markaa ka baxdo qof baa soo dhihi islaanta nin deriska ka duubay mase qof wiil ay saaxiibo yihiin baa ka duubay صح waxa horta bulshada ka daayan ina dhihi lahaa waad mahadsantahay walaashay shukran saad igala qayb qaadatay adigii intii meesha igala qayb qaadatayba waan sii khatimaya waan kasii baxayay khayr badan baan inuu rajeynayaa intay daawanaysa meel kasta joogtaan walaalahayga Soomaaliyeed ka gubta ka danqada hooyooyinka Soomaaliyeed dhibka lagu hayo qamaan soo dhawaada aad u mahadsan yihiin intii igala qayb qaadatay hadday comment tahay iyo hadday share tahay iyo hadday like tahay iyo hadday cod tahayba waad ku mahadsantihiin baan leeyahay waxaan ogahay wiil kastoo xun yahay wiil kastoo Soomaaliyeed uu ku xun yahay waayo hooyadii iyo walaashii ehelkiisa la dhibaateeyo waad ka wada danqanaysaan wayna ogahay laakiin in xun baa jirtay inta xun han iska soo saarno aan iska qabanno taas in leeyahay ilaahay idin dhaqayso وسمسم باكو قرنا قبل بابا كمودة وابدي صدوا متى أدمني لو ما مغلي أوه أدمن هايو كيس لانتي سوكا صدلا لغيابا وار أدمني لو ما مغلو ماكو مغلي يعني ما يمغشا ياكو ما مغلي يعني قدام حسن ماكو مغلي حدي قدقا كسر
أي حرق دقها قلي حرق دقو كادوني يعني حرق دقها وسق بها طيري سقوا هاي عد ما جرى dadkina waa ku soo qorayo cid ma jiro waan ku sugaynaa intaad afka ku hagaagayo insha Allah marka waxa weeye walaalayaal ragga Soomaaliyeed wayna jecelahay walaalahay baad tihiin waan dhalay rag aniga dhalay laba wiil baan leeyahay waxa weeye rag way la dhasheen wuu dhalay waan dhalay ma fahmaysaa waan u dhaxay marka waan dareemi karaya laakiin xanuunka iga farabatay habli Soomaaliyeed baa lagu ciyaaraya bahdilaya iyo laga duubaya marba la leeyahay sidan iyo sidan ma garanaysaa iska dhiga waa dareemi kartaa jeceshahay walaasha ina video laga doo maalinta Facebook la soo dhigo comment laga bixi ninna ma jecel walaashina saan oo ma fahmaysaa marka waxa loo baahan yahay waa inaad ma garanaysaa ka danqataa ragga Soomaaliyeed waxay ahaan jireen xilligii hore inanta Soomaaliyeed meesha lagu caayo wallahi ragga ay diri jireen haddii qaawan tahay gabadha Soomaaliyeed waa inaad isku waa inaad shaarkaaga u bixisid go'aaga sidid inistaada mid isku reeb aad ku dib baa xaq u leedahay waa cawradii hooyada cawradii walaasha ma fahmaysaa haddii nasiib faafina leeyahay wada laguma maqlayo xadhiga dadka حرق الجلي وحرق الجلي ما ضل فيها مرسى صعبة ثانية والرمس بقول كيبا سيدات النشان أيام شن يطلب باكله شن يطلب في هذا إسلام هيستا إسلام كل سنة هاو قلادان رجع فرفر نقول بيسلا هاو قلادان هلو لو ما مغلق باي باي تاو باو هذا سيد دول كنا دروا ولا هذا هاي لما بقرن يحدول كل هذا باقي بدي يصابوا هذا لو مغلا هذا وان هذا ها وقرقر فليه هذا قرقر فليه ما هو هذا الله ينصحنا ان شاء الله مركلا دي قايد وسمع عدا ركز كما مغلينا ولا ما تسمع شو sidaasaan iniga tagaya jannada inoo balana bye bye walaalahay meel kasta joogtaan dibka maamo kaste waa ka danqanaysa hooyo kaste waa ka danqanaysa inaan kaste waa ka danqanaysa inta bugta maaha waalida socota maaha ninkii damiir leh uu ka danqanaya wuxuu ka danqanaya gabadha walaashi ah dhibka ma garanaysa loo geystay ma jecesha walaasha inay xarrabto waa maya war ma jecesha walaalka inay yar bahdilo khayrka inay xar loo soo cunad cunto no war ma jeceshahay walaasha ninkii qabay kaaga asturnad inuu video ka soo duubo facebookyada naa kale isaga u bahdilaya waliba waa maya marka waxaan siisan kareynin adiga walaashaan aad u ogolaanin ha u ogolaan walaashaada Soomaaliyeed ana taasan ku leeyahay jannada inoo balana I love you dhamaantiinba umada beeshka ku xiran inta ay taageerta dad badan baa YouTube-ka ayaaba YouTube-kan booqday maalin dhaweyd wada bulshadaas ka soo gashata fiidiyowyada aan ka hadlo cid kama daba tagna waxa jira dad hunguriga u dhacay oo fiidiyo marka laga qaato daba orda ala fiidiyogan aniga laha duubay lacag ka samaysanina qof kasta oo Soomaali ah fiidiyoweega reechi weel hadan hay fasax weyn yahay wad qaadan kartaan YouTube-ka dax kaga helaysan gaalada gashada kaga hela anaga YouTube ma isticmaalno waad mahadsantihiin kaliya la daga fiidiyowga wax fiican ku qora laakiin waxa anaga ku soo qornay 2 eray 3 eray ka qaata ku qora ma fahmaysan marka wax weeye ragow xabaarna dagaalku inoo socda insha Allah dagaalku inoo socda waxay nii ballan qaadayaa birito leeyna soo galo duhurka waxa gabarba waxay ka samaysay buraanbur khadar silimo iyo waxay ka samaysay caashada hooyada la xumaynayo inantii xaalka cuntay dad badan gabadhiidu ninkeeda sirta la saaray uu soo duubay inantan buraanbur ayay diyaarisay haweenka Soomaaliyeed ay ku taageerisay waliba dumarka ragga ay xumaynayaan raggana ay ku karbaashayso marka biri duhurka waan soo gelin doonaa barnaamijkaas ayada soo qabanayna buraanburaysa annagina waa inii sheekayn doonaa jannada inoo balana sheer garee taliyala waa mahadsantiin intii xunna cafis baan siiyay intii wanaagsanna taankiigu baan leeyahay waxa wanaagsan waan soo gudbiyay ugu taageer insha Allah wixii xumaan aan ahay ugu raacin bye bye insha Allah jannada inoo balana ciao